السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال ديستيال جمعة ونكسن خيارات شرفت لي كحرن بيكينا سنتل صوماليا آدي يعني دي سودوينينا وحانو بلانسانين برنامج كيني تلباد لها أها نسينا الجمعة إيو نصيب كددوينها برنامج كينا عاوة برنامج سكونا جيري وكدوينها برنامج جيري هوري عدنا وبرتين inaan idinkaga soo baahino barteena facebooka ee Somtel Soomaaliya cawa yaa hoodiya ayaan leh yaa nasiib leh oo nasiibkiisa tijaabinaya ay maraysaa waa habeenimo taariikhi ah waa 4 bisha Shawaal sanadu waa 1440 marka loo eego hijriyada islaamka halka taariikhda miilaadiyadana ay abaarayso waa 7 bisha Juun sanadu waa 2019 waa habeenimo jimcaha dadka oo idin waxay ka nasanayaan shaqooyinkoodii qof waliba waxa uu joogaa goobaha loo nasiino tagay kuwa goobaha loo dalxiis tago qaarkood waxay hor fadhiyaan shaashadaha qaarkood guryahooda ayay joogaan qaarkoodna waxay joogaan maqaahiyaha iyo goobaha lagu caweeyo aad iyo aad u salaameynaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimka guud ahaan sida aad ka warqabtaan maalinta jimcaha waa ciid toddobaadka sida ciida Soomaaliyeed iyo ciida Carafa oo yihiin labada ciidood ee islaamka ay leeyihiin sidoo kale ciidana saddexaad waa maalinta jimcaha waa ciida toddobaadka ee ummadda muslimka ah wala damaashadeena ummadda muslimiinta meel waliba ay dunida ka joogaan waxaan ka soo gudubnay talaadadii hore ciidul fitriga oo inoo bilowday markaan soo gudanay amaashii siyaamka waxaan maaragtay ku ciidna farxad iyo rareyn iyo bashbash kadibna insha Allah taala barnaamijyadeena rootinka ayaan si toos u gudagalaynaa caawa sidaan horeba u tilmaamay barnaamijku uu ka disan yahay dhammaan barnaamijyadii aad hore u barateen barnaamijka aan su'aalaha idinku weydiinaynay ciida aan ugu talagalnay sidoo kale dhigaystaan oo nasiibkiisa tijaabinayay daawadaa sidoo kale qadadka telefoonka iyo barteen Facebook ee Somtel Soomaaliya iyo dadweynaha si toos uga soo wacayeen laakiin caawa barnaamijku sida uu ka disan yahay caawa waxa ina soo wici karaa oo kaliya qofka guuleysta marka ku shubta kaarka aanu yeerino halkan sidaan horeba uga dhawaajinay videogii barnaamijda aan duubnay qofka ku guuleysta kaarka hadalka aanu ka yeerinayna halkan 16 jeefar ka kooban qofka ku shubta ee uu soo dhaco lacagta ku jirta ayaa wuxuu heli doonaa abaalmarinada kala gedisan aanu ugu talagalnay yaa hoodiya ayaan leh yaa nasiib leh sidaan horeba uga dhawaajay yaa hanada yaa haliyay dhaba yaa hoodiya ayaan leh halku dhigeedii kala disnaa aan ku tilmaamnay barnaamijkeenii ayaan rabnaa inaan si toos ugu cabirno barnaamijka caawa hadiyadaha lagu guuleysan doono hadiyada isuma jiraan waxaa kamid ah mobaylo ay dadweynaha nala qayb galaya barnaamijka ku guuleysan doonaan sidoo kale waxay ku guuleysan doonaan simikaaro data ay ugu jirto ayuu qofku ku guuleysan karaa sidoo kale qofku wuxuu ku guuleysan karaa waa hadda yaa nasiib loo ku shuban doona caawa kaadhka aan halkan ka yeedhin doono wuxuu ku guuleysan karaa modem 4G ama dongle ka shirkadda ay bixiso oo qiimo aad u qaali ah ugu fadhiya ayuu qofku ku guuleysan karaa ugu dambeyntii qofku wuxuu ku guuleysan karaa adeegga loo yaqaano WADSL ee shirkadda isgaarsiinta Somtel ay bixiso ee loogu talagalay xafiisyada iyo goobaha ganacsi small businesska in loo isticmaalo yaa nasiib leh hadiyadaha kala gedisan aan ugu talagalnay halkan ka guran kara bal aayar waa iska gura sidoo kale barnaamijka tartanka wuxuu u dhacayaa qaabka soo socda sidaan hore uga dhawaajinay videoga barnaamijka aan ku xusnay waxa ina hor yaala waa scratch card oo qofka nasiibkiisa ku tijaabinayo scratch cardka sidaad aragtaan serialkiisa inaga ayuu inoo qoran yahay kaamilada saad ku aragtaan sidoo kale scratch cardkan lama xoqin weli si weey wuu xiran yahay kaamirada horteeda ayaan hadda ku xoqeynaa qofka waa loo yeerinayaa qofka uu waa in maskaxdiisa ay joogto maskax furan farafudayd gacantu aad u fudud lambarada marka sheego tira 3 jeer aan ku celiyo qofka 16 jeefar inuu xifdiyo isla mar ahaantaana u geliyo habka fudud ee aad kaarka ugu shuban kartana inaad qaano waa adigu un aayar sida ku cad kaarka qaybtiisa dambe ayaad ka arki kartaa xidig 114 xidig 16 jeefar aan yeerinayno oo pin card numberka ay qofka ku shubanayaa deedna 4 gees ayuu leeyahay sed uu dirayaa marka waa inta insha Allah taala barnaamijkeena ayaan jecelnahay
inaan si toos u gudagalno sidaa aragtaan kaarkii ugu horeeyay ayaan hadda furayaa si aan la wadaagno dadweynaha Soomaaliyeed si toos sida tooska inooga daawanaya barteena Facebooka aad iyo aad aan u salaameynaa waxaan ka codsanaynaa macaamiisha inala soo xiriiraysa fadlan macaamiil marka aad guulaysato oo kaliya inala soo xiriir inta ka horeysa dadka waa loo wada siman yahay insha Allah ta'ala qof walba waxaan rajaynaynaa inuu nasiibkiisa tijaabiyo kaarka ugu horeeya ayaan jecelahay inaan xuqo sidaad aragtaan kaamirada horteeda ayaan ku xuqayaa waa kaar xiran oo weli aan la furin talow yaa nasiib leh yaa hooday ayaan leh oo caaw nasiibkiisa tijaabinaya kuna guuleysanaya xoqashada kaarka ugu horeeya aan yeerin doono 16 jeefar uu ka kooban yahay waa nabarada uu ka kooban yahay bin kaarka waa yahay bal aan xoqo dadweynaha Soomaaliyeed ayaa maraka ah inaysan jirin wax aan hore u diyaarinay hadda ayaan kaamirada horteeda ku xoqeynaa sidaa aragtaanba waa yahay qof walba oo isdiyaari mobilkaaga gacanta ku dhig mobilkaaga fadlan gacanta ku dhig isdiyaari insha Allah ta'ala nasiibkaaga waa tijaabin kartaa hadiyadaha qaaliga ah ee barnaamijka nasiinada jimcaha iyo nasiibka dadweynaha ee shirkadda isgaarsiinta Somtel waad ku guuleysan kartaa lagama xigo daawo macaamiisha ku xiran barteena Facebook aad iyo aad u salaameynaa kuwa inala soo xiriiraya aad iyo aad u bogaadinaynaa waxaan leenahay qof waliba markuu guuleysto buu nasiibkiisa tijaabin karaa waayahay sidaad aragtaan kaarka ugu horeeya waan xoqay ma doonayno qofka numberka inuu si arko marka si toos ayaan u gudagalayaa waxaan u mahadcelinayaa walaalkay Cabduul Maxamed Abuukar oo qaybta farsamada inoo kala rogrogaya sidoo kale walaalkeen Mustafa aad u salaameynaa waayahay qaybta ugu horeysa ayaan gudagalaynaa yaa hoodii ayaan leh ayaan nasiibkiisa tijaabinayaa waxaan yeerin doonaa nambarada scratch card-ka aan tilmaamay waxaan ka codsanaynaa qof walba oo ku guuleysta ku shubta kaarka hadalka aan yeerinayno inuu screenshot ka soo qaado fariin qoraalka u soo dhacaya isla mar ahaantaana uu inoogu soo diro qaybta commentiyada ee barteena Facebooka sidoo kale waxaan ka arki karnaa inaga qaybta systemka si sax ayaan la soconaa laakiin waxaan rabnaa qofka inuu inala shaqeeyo oo isaga sawir ka soo qaado inala falgalo oo inoo soo diro inagana waan aragnaa qaybta systemka walaalaha igala shaqeynaya aad iyo aad ayaan u salaamayaa waxaa iga xusid mudan insha Allah dadweynaha Soomaaliyeed ee caawa ku guuleysta barnaamijkeena su'aalaha barnaamijkeena barnaamijka nasiibada jimcaha iyo nasiibka dadweynaha inaan abaalmarin doono insha Allah ta'ala maalmaha xiga oo maalinta axadda ayaa insha Allah ta'ala abaalmarin doona guud ahaan waxay noogu imaan doonaan xarunta dhexe ee shirkadda abaalmarinta ay shirkadda ugu talagashay way gudoomi doonaan waayahay kaarka ugu horeeya iyo numberka numberka ku xusan yeeriyo waxaan filayaa intaan hordhaca ku jiray ama ararinta in badan oo dadweynaha Soomaaliyeed ka tirsan inay aad isu diyaariyeen gaar ahaan macaamiisheena ku xiran barteena Facebook oo caawa aad u soo buux dhaafiyay waxaad moodaa diyaar garow fiican in la sameeyay daqiiqadihii yara 30 daqiiqo ama 40 daqiiqo aan dib u dhignay dad fara badan oo soo wacay awdeed ayaan jaanis u siiyay si qof walba uu fursad u helo fursad siman loo wada helo oo equal opportunity aan kala xigin insha Allah qof walba waa adiga iyo ayaanka waa maskax furnaantaada waa farfudeedkaaga sida aad nambarada markiiba aad ugu shubato waayahay numberka koobaad ayaan jecelahay inaan si toos u gudagalo waa kaarka ugu horeeya ee horyaala waayahay wuxuu ku bilaabanayaa qaabka soo socda macaamiil ila soco fadlan ila soco sidaan hore ugu dhawaajinay 3 jeer oo degdeg ayaan marin doonaa marka kadibna insha Allah ta'ala qofka ku guuleysta mar ku shubta inoo soo diro screenshot oo qaado sawirka guuleysiga wuxuu nagu soo diri doonaa waa fariinta guuleysiga barteena ma aragtay Facebooka qaybta commentada ay noogu soo diri doonaa waan idin soo bandhigi doonaa sidoo kale waxaan jaanis u sii doonaa in nagala soo xiriiro lambarka gaarka ee barnaamijka waayahay aan gudagalo wuxuu u dhacayaa 16 good ee numberka aan yeeri doona qaabka soo socda waayahay haddii aad garanayso macaamiil habka loogu shubto ku bilaabo xidig 114 xidig qaabka caadiga sida haddaba kaarka dushiisa inooga muuqata ayaad ku bilaabaysaa cafwan waa xidig 141 xidig xidig 141 xidig intaa inaad sii qorato kadibna numberka aan tilmaami doono insha Allah ta'ala aad gashato
ugu dambayna markaa insha allahu tacaala sidaan horba uga dhawaajinay afagays sende ayaad dhihi doontaa insha allah. waayahay maskaxda iyo gacanta inay isla socota ayaan aad u rajeynaya insha allah. waayahay aan gudagalo waa 6 waayahay inta la socota waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala. waxaan doonaynaa dadka maskaxdooda iyo surcabadiyadooda inaan tijaabino insha allah. si degdeg ayaan u sheegayaa, si degdeg ah. dad baa fudud, waxaan doonaynaa dadkaas inaan jaanis siiyo. qofka yara ma aragtay fariiso ay culus yihiin ma aragtay uu ka haya dabcan, laakiin insha allah dadka kale aan jaanis siino. waan dedejinayaa mar labaad aan ku celiyo. waayahay waa 6 waayahay marka ugu dambaysa ayaan ku celinayaa. waa 6 waayahay macaamiilka ku guuleystay ee ku shubtay ayaa waxaan ka rajeynaynaa insha allahu tacaala inuu screenshot ka qaado fariinta guuleysiga, isla markaana insha allah inuu soo diro qaybta komentiyada ee barteena facebooka Somtel Soomaaliya. caawiya hoodii ayaan leh yaana sidiisa tijaabinaya yaa ku shubtay oo insha allahu tacaala aan soo bandhigi doonaa. lama kala hari doono insha allahu tacaala. dadweynaha Soomaaliyeed waxaan leenahay nasiibkiina tijaabiya, ku xirnaada had iyo jeer barteena facebooka ee Somtel Soomaaliya. barnaamijkan waa barnaamij toddobaadle oo si toos ah ugala socon doontaan barteena facebook ee Somtel Soomaaliya. waa barnaamijka nasiibada jimcaha iyo nasiibka dadweynaha ee shirkadda isgaarsiinta Somtel. waayahay weli waxaynu ku guda jirnaa qaybihii ugu horeeyay ee barnaamijka. macaamiil fara badan ayaa isku daya insha allahu tacaala inay ku shubato. waa rajeynayaa insha allah inay qaarkoodba markiiba ay la heleen oo suulka ay ku dhufteen, markiiba send ay yiraahdeen ay direen. inta aan dirinna waan arki doonaa. weli qaybihii hore ee barnaamijkeena ayaan ku guda jirnaa. barnaamijkeenu waa barnaamij xiise gaar ah xambaarsan. caawa wax su-aala dadweynaha ma weydiin doono, waan la damaashaadayna. sidoo kale qadadka telefoonka iyo barteena facebooka caawa waxay u furantaa oo nala soo xiriiri kara qofka guuleysta oo keliya. caawa guuleystayaasha unba la abaalmarinaya. macaamiil guuleyso, ku shubo kaarkii aanu yeerinay, nasiibkaaga tijaabi. marka aad guuleysatana screenshot ka qaad fariinta guuleysiga. lacagta aad ku shubat ee recharging-ka aad samaysay ayaa kuu soo dhici doonta. iron screenshot ka qaad, inoogu soo dir qaybta kommentiyada ee barteen facebooka Somtel Soomaaliya. weli waxaynu ku guda jirnaa qaybihii hore ee barnaamijkeena. dadweyne fara badan ayaa inala soo xiriiraya. maasha allah yaa nasiibkiisa tijaabiyaa ku shubtay. waan arki doonaa insha allahu tacaala. guuleystayaasha caawa hadiyada kala gedisan sidaan horeba u tilmaamay ayaa lagu guuleysanayay. hadiyada kuwaa sidaan tilmaamay qofka wuxuu xaq u leeyahay inuu ku guuleysto mobile iyo sim card, sim 4G iyo 3G intaba ku xambaaraya. dhaato fara badanna ay kuugu jirto. talo imise GB ayaa ugu jirta. dad fara badan baa isweydiinaya. ma ka hor dhacayo insha allah, kama hor dhici doono. jaanis ayaan u siinayaa. sidoo kale qofka wuxuu ku guuleysan karaa data internet, kaarka hadalka. talo muxuu ku guuleysan doonaa? ma $5 baa? ma $10 baa? ma $15 baa? ma $20? marka inta ay noqonaysa ayaa la sii doonayaa. sidoo kale dadweynaha waxay ku guuleysan karaan modemka 4G ee shirkadda isgaarsiinta Somtel. lagama xigo daawade, macaamiilka ku xiran barteeno lagama xigo inaad ku guuleysato hadiyadaha kala gedisan ee aan kugu talagalnay barnaamijka. maasha allah qaybta controlka waxa ay tilmaamayaan in guuleystihii koobaad ma aragtay la helay oo inoo soo diray insha allah fariintii guuleysiga oo screenshot ka qaaday. marka waan idin soo bandhigi doonaa insha allah. inta aanan gudagelin kaarka xiga aan yeelin doono. waayahay sidoo kale qofku wuxuu ku guuleysan karaa WIDSL. waa mid ka mid ah boroktiyada shirkadda ay bixiso oo loogu talagalay xafiisyada iyo maaragtay small businesska ayaa loogu talagalay. aad ayuu isbidkiisu u sareeyaa. xawaaraha marka laga eego qiimihiisana aad ayuu u jaban yahay. waa $36 oo keliya.
sidoo kale modem 4G-ga sidaan hore u tilmaamay isagana waa $36 ilaa 8 GB oo data ahna way kugu jirtaa sidoo kale WADSL-kana waxaa kugu jirta 30 GB isagu iib ma aha waa agabka WADSL-ka iib ma aha waxa kaliya ee la iibinayo waa datada ku jirta qofka waxaa markiiba uu helayaa 30 GB oo ugu jirta WADSL-kiisa ayuu qaadan karaa marka yaa nasiib loo caawa tijaabinaya sidaad aragtaanba waa ka marka insha Allah qofkii nasiib leh baa ku guuleysan doona caawa loo ma kala hari doono insha Allah sidaan horeba uga dhawaajinay yaa hodiya ayaan la nasiibkiisa tijaabinaya yaa harin dhalada waaya qof nasiibkiisa tijaabinaya ayaan jaaris u siin doona insha Allah ta'ala guuleysta koobaad inta ay controlka iga soo bandhigayaan aan jecelahay dadweynaha inay isu diyaariyaan insha Allah ta'ala qaybta labaad iyana sidaan hore ugu dhawaajinay kaadhka xiga waan xoqi doonaa insha Allah ta'ala dadweynaha hortooda marka aan laabno kaadhka koobaad ee hadda aan dhameynay waa 4 kaadh ee xiran marba mid aan xoqi doonaa qofka wax kaliya laga doonayo waxay tahay 16 jiifar ee pin numberka ka kooban yahay aan yeedhin doono inuu ku shubto marka hore inuu diyaariyo u yiraahdo xidig 141 xidig pin numberka aan yeedhin doono marka uu geeyo waayahay guuleystaha ugu horeeya aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa dabcan hadda waxaan soo saaraynaa insha Allah ta'ala shaashada waad arki doontaa insha Allah guuleystaha koowaad talo muxuu ku guuleystay waa su'aal daaweyn oo madaxa daaliyeyse intaanan soo bandhigin ma sha Allah walaalkeen caadil aad iyo aad ayaan u saameynaa caadiyeer waxaan leenahay waa ku mahadsantahay isticmaalka SIM card-ka Somtel iyo sida aad ma aragtay ma sha Allah maskaxdaada u furan tahay farahaaguna ma aragtay markiiba ay lambaradu u gaacayaan sida fudud ugu shubtay waan uga mahadcelinaynaa insha Allah waxaan ka codsanayaa dadweynaha inay ka eegaan shaashada caadil waad aragtaan aad iyo aad u salaameynaa caadil wuu tijaabiyo ma sha Allah waan mahadcelinaynaa sida wacan uu uga soo dhaalay waad aragtaan ayaan filayaa dadweynaha Soomaaliyeed ee la socda waan u mahadcelinaynaa ma sha Allah caadil sida uu u dadaalay dad fara badan oo eryanayeen ma aragtay marka iyagana nasiibkooda tijaabinayo ugu hormaray ما شاء الله عادل وحنا لنا وضع سنتهاي كل عادل قد كان سوقلين دورنا إن شاء الله سيان ما عرفت جانس وسينو وهي هاي وقتي وحنا كعصنا عادل إنه نصو حرير إن شاء الله تعالى سيان هودا وسوقلينو وايهي سينا أول أسوقين إن شاء الله تعالى ورجينا إنه نلسو حريري دون لمبر كجار كي برنامج كوالح طبعا إبر تضل السجاب عادل ديال ومهسية هاي سيدو السجود ديي معركة وانهم هاد علينا عادل علي محمد وحنا السود ولا ما شاء الله وحد بدا كاركي توبات inuu ma aragtay inaga idlaaday oo qof ka mid ah walaalaha uu ku guuleystay saad shaashada wada aragtaan aan u soo bandhignay ma sha Allah aad u salaameena wayahay halo caadil salaam alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah aad iyo aad u mahadsan yahay caadil magaca iyo deegaanka ma aragtay qofkii ugu horeeyay ee ku guuleystay karka hadalka ku shubtay ma aragtay aanu yeernay dadweyne fara badan oo maanta gobolada dalka iyo ma aragtay magaalada caasimadda Muqdisho iyo wadanka dibadiisa joogo kula tartamay inaad ka guuleysatay bal maxay tahay sirta ku jirta waa maxay sirta ku jirta bal noo sheeg caadil wallahi ma sha Allah qaado faraxsanahay yani inta si yani تيشكي من هذه الجيوبي وحاليا ما أنا يرد صحة إن الإنترنت كثير يقدر معهم هيك فرق
ما شاء الله هاي معايا وأغنيني يا شركة سمتيل باركم مع السنتين من الفرصة حد المسلسل ما شاء الله inagana waan ku hambalyeynayna caadil wuxuu ahaa daawadihii ugu horeeyay kana mid ah macaamiisha ku xiran barteena Facebook ee Somtel Soomaaliya caawna kaadhkii ugu horeeyay aan xoqnay isla mar ahaanta aan ka yeerinay halkan ku shubtay ma sha Allah nasiib waxaan ku leenahay bal ka waran sidee u aragtaa ma aragtay barnaamijka jimcaha iyo hadiidaha kala gedisan ee shirkadda ay ugu talagashay macaamiisheeda iyo dadweynaha kala gedisan iyo barnaamijyadii hore aan u soo bandhig bal aragti guud inaga sii caadil والله ما شاء الله تعالى فرحت معي يعني ما دي اللي انت كان هل جيبين لكن جماعي وبدر خلاصيهم ما شاء الله ما شاء الله عادل aad iyo aad ugu mahadsan yahay bal maxaad filaysaa caadil oo inaad guuleysan karto maxaad filaysaa caawa hadiyada shirkadda kuugu talagashay maxaa is leedahay nasiibkaagu u noqday والله هني هو سيدا رياضيو يعني لما تنجي بي ما يحكى لنا يمكن كلا ما شاء الله ما شاء الله عادل labaatan iyo wax ka badan ayaad inagu leedahay insha Allah taala shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay kuugu talagashay mobile-ka ayay kuugu talagashay sidoo kale waxaad ku guuleysatay caadil SIM card 4G ah sidoo kale waxaad ku guuleysatay $10 oo dhaatada shirkadda isgaarsiinta Somtel caadil caawa iska gura ma sha Allah hadiyadaha caadil waan u mahadcelinaynaa sidoo u guuleystay ma sha Allah iyo numberkiisa sida shaashada ka aragtaan waxaan filayaa inaad soo bandhigno fariinta guuleysiga walaalkeen caadil barnaamijkan waa barnaamij aad loo turxaan bixiyay lagana soo shaqeeyay waa barnaamij hab transparency ku dhisan wax walbana waxa weeyaan ma aragtay qaab cadaalad ayaan u dhignay qof walba waa nasiibkaaga tijaabiya lagaaga hormarin lagaama xigo guushu waxa weeyaan ma aragtay lagaama xigo ilibinta waa dadalkaaga oo kaliya kaakii hore aan yeernayna waa kan sidaad aragtaan waa lambarkii aan hore u sheegay hadda waa si ayar ayaan idinku marin karaa waxaan filayaa daati inaan aad u dejiyo taa ujeeda laga lahaa laakiin hadda waa si ayar oo tartiib aan idinku marinayaa maadaama lagu guuleystay ma sha Allah walaalkeen caadiliyara uu ku guuleystay waa 6 45 83 82 41 waa 16 ka jifar mar labaad aan ugu celiyo waa 6 45 83 41 marka ugu dambeeya insha Allah maadaama uu inaga baxay waa 6 45 83 waa 41 aad iyo aad u mahadsan yihiin sidaad agtaan halkaas ayaan ku jeexjeexinaa maadaama lagu guuleystay qayb ma ka noqon doono insha Allah taala waa walaalkeen caadil nasiibkiisa ayuu ahaa hadiyadaha kala gedisan oo gurtayna waan uga mahadcelinaynaa ma sha Allah waayahay caawa waxaad moodaa isla markiiba ilaga daldalanayo waxaan soo diyaariyay hadiyadihii aan ugu talagalnay qaybaha xiga ayaan jeclahay inaan abaari doono insha Allah taala kaadhka xiga iyo yaa nasiib leh ma aragtay markaan yeerino sidaad aragtaan kaararka kale inoo hayo waa all weli lama xoqin sidooda ayay u diyaarsan yihiin daawadayaasha hortooda ayaan ku xoqi doonaa insha Allah taala qof walbana nasiibkiisa ayuu tijaabin doonaa caawa yaa hoodiya ayaan leeyaa nasiib loo tijaabinaya nasiibkiisa yaa habeen dhalada aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa dadweynaha Soomaaliyeed ee hadii jeer ku xiran barteena Facebook caawan aad inooga wardhowrayay waa barnaamij gaar oo xiiso leh aan ugu magac darnay waa nasiinada jimcaha iyo nasiibka dadweynaha ee shirkadda isgaarsiinta Somtel telefoonada iyo barteena Facebook aad ayaa loo soo buux dhaafinaya laakiin waxaan jaanis u siin doonaa caawa waan ka raaligelinaynaa daawadayaasheena iyo macaamiisha ku xiran barnaamijka in ayna soo wici karaan oo kaliya dadka guuleystayaasha unbaa caawa haweenkoodii iyaga unbaa jaanis loo siinayaa dadweyne kala gedisan ayaa nagala soo xiriya guud ahaan gobolada dalka gobolka Baay ayaa si gaarna laga soo wacayaa gobolka Bakool gobolka Hiiraan gobolka Mudug Galgaduud ma aragtay shabeellaha dhexe shabeellada hoose guud ahaan gobolada dalka ayaa nagala soo xiriiraya jubbada hoose jubbada dhexe gobolka Garow waayahay magaalooyin kala gedisan ayaa nagala soo xiriiraya ma sha Allah gobolka Nugaal ayaa kamid gobolada ee dadweynaha ee aad nagala soo xiriirayaan waan mahadcelinaynaa guud ahaan gobolada dalka iyo wadanka dibadiisa barteena Facebook aad ayaa loo soo dhaafiyay dadweynaha Soomaaliyeed waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantiin bal markaan aan abaaro qaybta labaad iyo su'aasha labaad ayaan jeclahay inaan guda galno oo aan jaanis u siin insha Allah taala sida aragtaan daawadayaal hadda ayaan xoqayaa kaarka idinka ayaa xubin doona sida aan ma aragtay u xoqayno waa kaark xiran sidaad aragtaan oo aan weli la furin
serialkiisi iyo allna waa daalacan kartaan aad iyo aad ayaan u salaamaynaa dadweynaha Soomaaliyeed ee caawa barnaamijkeena la socda ma aragtay nala soo xiriiray waan ka raali gelinaynaa fadlan waxaan rajaynayaa guuleystayaasha oo kaliya inaan jaanis u sino dadweynaha kale ee caawa ay ka mid noqdaan dadka ina daawanaya insha Allah taala bal kaarka labaad ayaan ma aragtay gudgalayaa insha Allah taala idinkoo arkaya ayaan jecelahay inaan xoqo sida aad aragtaan daawadayaal waa kaarka labaad waa yahay hadda ayaa la xoqayaa insha Allah taala hadda ayaan gudgalaynaa bal eega waa yahay inala eega insha Allah taala ma aragtay sidaan u xoqeyno waa yahay waa kaar xiran hadda baan xoqeynaa insha Allah sida aragtaan waxaan filayaa in dadweynaha aad ula dhici doonaan sidaad aragtaan waa afartii kaare isku dhigay midkii labaad ayaan xoqayaa hadda ma sha Allah in la wada arko ayaan jecelahay aan gudagalno marka bal yaa nasiib leh telefoonada waxaan filayaa qof walba inuu haysto telefoonkiisa afan daawadayaal uu gacanta ugu jiro ma aragtay aad iyo aad qof walba telefoonkiisa inuu gacanta ugu jiro waa yahay waan gudagalayaa qaybta labaad ayaan gudagalayaa daawade bal mobilkaaga gacanta ma aragtay si fiican u xajiso isla markaana isu day inaad nambarada aan yeerin doono si fudud ma aragtay aad maskaxda ugu dhigto farahaaguna ay shaqeeyaan oo si fudud aayar aad u geliso insha Allah bal u fiirso ayaan ku leenahay daawade bal u fiirso lambarada aan yeerin doono insha Allah taala nasiibkaaga tijaabi kuna shubo telefoonkaaga gaarka ah ee aad gacanta ku haysato caaw telefoonada gacanta midig baa lagu haystaa bidix xitaa lama xajinayo sida ay muuqata ma sha Allah sidaad aragtaan kaarka waan xoqnay ma doonayo dadka qaarkii inay daalacdaan numberka kaarka waan gudagalayaa insha Allah taala bal ila socdo waan gudagalnay automatically waan yeerinayaa 3 jeer ayaan ku celin doonaa waa yahay 69 waxaan filayaa inaan yeeriyay markii koowaad mar labaad ayaan jecelahay inaan ku celiyo dadweynahana ay aad ila socdaan ay ka bogtaan insha Allah waa 69 waa marka saddexaad ee ugu dambeeya caawa dadka gacanta fudud baa ila sheekaysan kara aad ma aragtay faraha inay igala hadlaan jecelahay dhagahana ay ma aragtay aad ugu buuxsadaan waa marka ugu dambeeya 69 eber 8 waa 87 yaa hoodii ayaa leh yaa ku shubtay daawadaha labaad macaamilka labaad ee ku xiran barteena Facebook ee caawa ku shubtay ayaan doonayaa sidaan hore uga dhawaajiyaba haddii aad ku guulaysato macaamiil screenshot inoogu soo qaad fariinta guulaysiga rejaashinka aad samaysay inoogu soo dir qaybta commentiyada ee barteena Facebook waa Facebook Messenger-ka inoogu soo dir dadweynaha aad bay u garanayaan Facebook-ga waan filayaa inay inoogu soo diri doonaan sida hore baan u soo dirnay waana qaab transparency leh waxaad ka arki doontaa shaashadda sidaan hore u soo bandhignay ma garan karo kumuu noqon doonaa daawadaha labaad dhegeystaha labaad macaamilka labaad ee ku guuleysta hadiyada qaaliga aan ugu tagalnay yaa salaam waa caawa iska gura aayar hadiyada koowaad labaad saddexaad afaraad shanaad ma garan karo ilaa boqolaal miyaan gaarsiin doonaa bal waa sidaad inoogu fududaysaan ood nasiibkiina u tijaabisaan sidaad ugu shubataan bay noqon doontaa daawadayaal waa had iyo jeer inagoo idiin hilan iyo idinku inoo hamuun qaba inaga war dhowra aad ugu xir barteena Facebook-ga had iyo jeerna inoo soo gudbiya talooyin dhaxal ah inoogu soo dira barteena Facebook-ga iyo qaybta commentiyada ee Facebook Messenger-ka aad aan u salaameynaa iyo ma aragtay qaybaha kale ee shirkadda waxa loogu soo diro ayaan aad u bogaadinaynaa dadweyne fara badan oo Soomaaliyeed oo afkaar dhaxal gala inoo soo dira had iyo jeer daawadayaal ra'yigiina waa inoo muhiim had iyo jeer inagu soo biiriyo wixii talo iyo tusaale ah waayahay aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa maasha Allah ma aragtay dadweyne fara badan ayaa isku dayay inay nasiibkooda tijaabiyaan caawa waxaa la yaab leh oo aad iga yaabiyey qaybta farsamada xataa ila joogta inkastoo aan u diiday inay qayb ka noqdaan ma aragtay barnaamijka xataa iyagii way ka laayihiin iyagoo ag fadhiya inay ku shubtaan
والله وهول آد فرحت قلينيسا ما شاء الله dadweynaha kale ayaan jaanis siinayna Cabduuli waxaan leenahay maya adig ma jirtid caawina xitaa haddaan jaanis u siin inaadan ku shuban karin ayaa aad ugu kalsoonahay waan u mahadcelinayaa maasha Allah qaybta farsamada iyo sawcan ay igala shaqeynayaan barnaamijka dadweynaha Soomaaliyeed oo idil waan bogaadinaynaa shirkadda isgaarsiinta Somtel had iyo jeer waxay u taagan tahay qabtirka bulshada Soomaaliyeed isgaarsiinta qaybaheeda kala gedisan ku hadal haddii ahaan lahayd iyo qaybta internetka shirkadda Somtel waa shirkaddii ugu horeysay ee 4G internet keenta waddanka adeegyo kala gedisan ayay ku haysaa waxaad ka helaysaa adeega 3G waxaad ka helaysaa adeega 4G waxaad ka helaysaa adeega 4G plus waa 4.5G waa adeegii ugu dambeeyay latest technology ee caalamka laga isticmaalo 5 generationka ayuu ka agdhow yahay 5 generationka iyo 4.5 waxaa lagu kaxeeyaa gawaarida xawaarahooga aad u sareeyo aadanaha iyo waa laga gudbay robotyada iyo maaragtay gawaarida xawaarahooga aad ku dheereeyo ayaa loo isticmaalaa sida aad ka warqabtaan waddanka Japan iyo wadamada tiknoolajiyada aadka ugu sareeya ayaa aad maaragtay u isticmaala dunida horumartay ma aad ay u isticmaalaan 5G xitaa dunida maanta aad ugu yar yahay waan mahadcelinaynaa aad iyo aad aan u bogaadiso aad u salaameynaa dadweynaha Soomaaliyeed ee barnaamijkeena waayahay aad waayahay waan u mahadcelinayaa dadweyne fara badan ayaa ra'yigooga ka soo dhiibanaya barnaamijka qaybta commentiyada ayaa lagu soo qorayaa Facebook Messenger-ka iyo qaybaha kale waxa lagu soo diro waayahay dadweynuhu waxay iga codsanayaan inaan xawaaraha yareeyo oo aan si ayro tartiib aan u sheego waayahay waxaan ugu talagalay inaan sameeyo xiisagelin iyo xamaasayn waxaan filayaa qaybtii koowaad iyo qaybtii labaad in dadweyne fara badan aan aad u xamaasaynay sidaad aragtaan kaar walba aan sheego hore un baan ka laabayaa ma ogolo qofka inuu arko kaararka kale inoo haray sidaad aragtaan waa 3 kaard oo xiran oo aan weli la furin waa sajal waa sidoodii maasha Allah dadweynaha hortooda ayaan ku xuqi doonaa insha Allah taala kaarka hadalka qof walba nasiibkiisa ayuu tijaabin doonaa si uu ugu shubto waayahay isbiilka yaray ayaa lagu leeyahay waan yareynayaa insha Allah taala si dadweyne fara badan ay u helaan laakiin dadka xawaarahooga aad u sareeyo ee farahooga ma aragtay aad u dhaqaaqayaan maxaan u samaynayaa dadka ayaan doonay in badan inaan jaanis iyo dadweynaha intooda kalena inay u tartamaan dadka oo kale inay noqdaan oo farahooga ay aad uga shaqeysiyaan waa inuu isla socotaa maskaxdaada iyo farahaaga ay aad u wada shaqeeyaan masha Allah dadkii ma aragtay teebka baranji xiliyadii hore sagaashamaadkii iyo ma aragtay aad ku garaaci jiray iyagoo aan eegaynin teebka aaway dadkeygii meeya aad iyo aad ma salaamaya qofkii nasiib leh baa isku dayi doona insha Allah daawadaha labaad ayaan weli ka wardhooraynaa ee ku guuleystay kaarkii aan halkan ka yeeriyay waa bin kaarkii ka koobnaa 16 jifar ee caawa nasiibkiisa tijaabiyay aad iyo aad aan u salaameynaa dadweynaha Soomaaliyeed ma aragtay had iyo jeer ku xiran barta Facebook ee Somtel Soomaaliya gaar ahaan barnaamijkeenan jimcaha ee nasiinada jimcaha iyo nasiibka dadweyne fara badan oo kala jooga gobolada dalka waddanka dibadiisa magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa aad isugu dayay caawa nasiibkooga inay tijaabiyaan isla mar ahaantaana ay ku shubtaan kaarka hadalka aan idinkugu talagalnay qof walow nasiibka qof walba ayaanka lagama xigo insha Allah taala nasiibkaaga waa tijaabin kartaa aad ayaan u soo dhaweynaynaa insha Allah taala qaybaha kale waxaan aad u rajaynayaa inaan yareeyo xawaaraha oo si tartiib ah aan u sheego markiiba qofka ku guuleysanaya waxaan doonayaa inaan maaragtay dadka xamaas geliyo xiisagelin aan u sameeyno isla mar ahaantaana isku dayaan dad fara badan farahooga ay ka shaqeysiyaan maskaxdooda ay ku laraan qof walba ayaanka caawa lagama xigo insha Allah taala inaad guuleysato su'aalo kuma weydiin doona caawa xitaa qadadka telefoonada iyo barta Facebooka waxaa jaanis oo siinaya oo kaliya qofka guuleysta ay ku shubta kaarka aan halkan ka yeerin doono insha Allah dadweynaha Soomaaliyeed had iyo jeer ku xiran barteena Facebook iyo barnaamijyadeena gaarka ah aad iyo aad aan ogaadinayna waxaan leenahay had iyo jeer ku xinaada barteena Facebook ee Somtel Soomaaliya aad baa loo soo buux dhaafiyay caawa dadweyne fara badan ayaa ma aragtay qadka aad u soo galaya hadii ahaan telefoonka gaarka ee barnaamijka iyo barteena Facebook ee Somtel Soomaaliya daawadayaal soo dhawaada ayaan idin leenahay ma sha Allah inkastoo caawa aan telefoonada aan u furi doono qofka guuleysto waan jaanis u siinaynaa waaye
qofka hadduu soo dirin xitaa inuu guuleystay aan la soconaa systemka waan haysanaa inaga laakiin waxaan codsanaynaa isaga inuu inoo soo diro inuu share gareeyey inuu like saaray inuu comment gareeyey wax walba halkaas ay inooga cadaan doonaan qof walba si aan hore uga dhawaajiray markaan videoga boomada aan duubeynay waxaa jira shuruudo ka horeeya guuleysiga wuxuu ahaa shuruudaha ka qaybgalka barnaamijka nasiinada jimcaha iyo nasiibka dadweynaha fadlan like saar page-kiina comment garee post aan soo dhigno share garee videoga oo la wadaag asxaabtaada eheladaada qaraabadaada iyo dadweynaha aad bahkarka tihiin waayahay markaa kadibna hadda tijaabi nasiibkaaga lagaama xiga caawa waa adiga ayaanka insha allahu tacaala qof walbo nasiibkii ayaan leenahay nasiibkaaga tijaabi caawa farahaaga ka shaqaysii weli waxaan la daalaadhaceynaa waa kaarkii labaad waxaan filayaa in lagu shubtay markaan waayahay waan ka gudbaynaa daawadaha labaad waxaan filayaa in lagu shubtay insha allahu tacaala maadaama daawadaha uusan ismuujin isaga wiyadiisa uusan sheegin innagana u doonayna system ahaan inaan u muujino insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa ma sheegi doono kaadhkan numberkiisa yacni waan haynaa waa kaa ma sheegi doono laakiin wuu ka baxayaa tartanka insha allahu tacaala saddexda kaadh ee xiga ayaan ku tartami doonaa waayahay waa qof wallow dadaalka sidaad arkaan waa saddex kaadh oo xiran oo aan weli la xoqin insha allahu tacaala waan xoqi doonaa bin kaadhka xusan kaarka qof walba nasiibkiisa ayuu tijaabin doonaa daawadayaasha hortooda ayaan ku xoqi doonaa insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa maaragtay kaameradana inaysan maaragtay lambarada iga boobin bis almuhiim inaan aragno inaan xoqayno oo keliya waa kaa dadka qaarka ayaa aragoogu aad u sareeya markiiba maaragtay la boodaya lambarka maasha allah sidaan hore uga dhawaajinay kaadhka saddexaad ayaan ku guda jirnaa waayahay dadweyne fara badan ayaa ii soo qoraya qaybta gaarka iyo qaybta facebook messengerka waxay leeyihiin bal calow aayar tartiib hadda dejin markaad sheegaysid waayahay kaarka saddexaad waa kaa haddaan xoqay waan yerin doonaa laba kaadh ayaa ii harsan kaarar kalena way noo yeelaan caawa kaararka aad ayay u fara badan yihiin qof walba nasiibkiisa ayuu tijaabin doonaa insha allah sidaan hore ugu talagalnay waayahay kaararka weli sidooda ayay inoogu diyaarsan yihiin sidaan hore uga dhawaajiyey kaarar kale ayaa inoo diyaarsan qof walbow adiga un hadaalin inaga ma daali doona insha allah waayahay kaadhka aan yeeriyo waa kaadhka xiga ayaan yeerinayaa bal daawada u diyaar garow markaad astaanta ku shubashada aad gudagasho ama habraaca fudud ee loogu shubto waxaan jeclahay inaan si toos markaan u yeerino markaad tiraahdo xidig 141 xidig markaad tiraahdo waxaan aad u rajaynayaa insha allahu tacaala bin kaadhka ay yeerin doona inaad geliso kadibna maaragtay afar gees aad tiraahdo dana send baad leedahay waa deesa aad u fudiya habka ku shubashada waayahay aan gudagalo isbiirkana waan yaraynaynaa insha allahu tacaala waayahay kol haddii la yidhi ama qof waliba uu qoray xidig 141 xidig bal bin kaadhkii aan yeeriyo 68 49 54 67 24 eber 8 59 23 waxaan filayaa isbiirkii hore inaan aad ugu yareeyay waayahay mar labaad iyo mar saddexaad aan ugu celiyo daawadayaasha iyo macaamiisha ku xiran barteena facebook ee Somtel Soomaaliya waayahay waa 68 49 54 67 waa 24 eber 8 59 23 waxaan filayaa in aad u yareynay isbiidkii xawaari aan ku waday waayahay bal mar saddexaad aan ugu celiyo waa markii u dambeysay insha allahu tacaala
waayahay waa 68 49 54 67 24 8 konton 23 waayahay yaa hoodii ayaa la nasiibkiisa tijaabinaya yaa screenshot iga soo qaadaya fariinta guuleysiga ee ku shubashada kaarka hadalka aan halkan ka yeerinay bin kaarka aan yeeriyo qofkii ku shubtay ayaan rajeynaya insha Allah taala inuu soo diri doono screenshot inuu soo qaado isla mar ahaantaana inuu soo diri doono qayb commentiyada ee Facebook Messenger-keena waayahay aad iyo aad aan u bogaadinay dadweyne fara badan ayaa isku dayay caaw nasiibkooda tijaabiyay waxaa hubaala maadaama isbidkii hore aan yeeyay in markaan lagu shubtay aad origina insha Allah ya nasiibkiisa tijaabiyay oo ku shubtay waan arki doonaa insha Allah taala qofka nasiibku u saamixina waan arki doonaa insha Allah wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeennii nasiinada jimcaha iyo nasiibka dadweynaha ee shirkadda isgaarsiinta Somtel waa barnaamij Allah oo si toos ah kaga bogan doontaan barteena Facebook ee Somtel Soomaaliya qof walba nasiibkaaga tijaabi caawa su'aal lagu weydiin doono hal xiraalo lagu weydiin doono su'aalihii hore aan dadka weydiin jiray barnaamijyadii ciida nasiibka lagu tijaabinayo ma jirta caawa su'aal diini ama lagu weydiinayo su'aal aqoon guud lagu weydiin doono su'aal xitaa la xiriirta productyada shirkadda caawa lagu weydiin doono waa un nasiibkaaga inaad tijaabiso oo kaliya caawa waa ayar waa imtixaan aad u fudud sidaan isleeyahay inaad ku shubato gacantaada ka shaqaysiiso un baan doonaynaa insha Allah taala weli waxaynu ku gujirnaa qaybihii maartay dhexe ee barnaamijkeennii nasiinada jimcaha iyo nasiibka dadweynaha shirkadda isgaarsiinta Somtel dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan daafaha dunida aad iyo aad aan u bogaadinayna waan salaameynaa waxaan leenahay jimco wanaagsan sida aad ula socotaan barnaamijkeena nasiinada jimcaha iyo nasiibka dadweynaha sida aad inoo soo wacaysaan fariimaha aad inoo soo diraysaan aad iyo aad aan ku bogaadinaynaa xaqiiqdii la'aantiin shirkaddu waxba uma noqonayso idinka ay unbaa u ah u dhaxaad had iyo jeer waan idin bogaadinaynaa maasha Allah waliba qurb joogto iyana aad maaragtay fariimo fara badan inoogu soo diraya barnaamijkana aad u bogaadinaya ala tusaale fariin wixii aad qabto daawade macaamiil inoo soo dir inoogu soo dir qaybaha gaarka ah ee commentiyada haddii aad barteena Facebooka maaragtay inoogu soo dirayso sidoo kale lambarka gaarka ah waan inoogu soo diri kartaa insha Allah taala aan soo dhaweynaynaa sida shaashadaba ka aragtaan lambarka gaarka waa noogu soo diri kartaa 6 sidoo kale waxaad soo xiriiri kartaa qaybta daryeelka macaamiisha ee shirkadda isgaarsiinta Somtel 151 ama 21 waan noogu soo diri kartaa sidoo kale beejka gaarka ay shirkaddan waan noogu soo diri kartaa insha Allah taala aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa dadweynaha Soomaaliyeed meel waliba dunida ka joogan caawa reer Muqdisho waxaad moodaa inay aad inoola socdaan maasha Allah dadweynaha maaragtay goobaha loo dalxiiska jooga iyo goobaha loo nasiib taga caawa waxaan leeyahay aad ula socdaan qof waliba wuxuu indhaha ku hayaa u daalacanayaa wax ka socda barta Facebook ee Somtel Soomaaliya dadweyne fara badan oo guryahooda jooga aad ay ula socdaan soo dhaweynayna caawa yaa nasiib leh yaa hodiya ayaan leh daawadihii ugu horeeyay ee ku guuleystay wuxuu ahaa walaalkeena caadi oo nagala soo xiriiray xaafadda Buuluxuug ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir waxaan filayaa inuu nasiibkiisa tijaabiyay hadiyad uu helayna waad ka qabtaan waayahay dadweyne kala gedisan ayaa caaw isku dayay inay nasiibkooda tijaabiyaan aad iyo aad aan u bogaadinayna had iyo jeer waxaan leeyahay barnaamijkan waa barnaamij lagu dhiirigelinayo macaamiisha gaarka ee shirkadda isgaarsiinta Somtel qof walba oo nasiibkaaga tijaabi simikaarka Somtel haddii aad haysato caawa kaarka hadalka aan halkan ka yeerin doono ku shubo nasiibkaaga tijaabi waaye lagama xigo insha Allah taala waa si aad u farafududahay oo kaliya adigoo nasiibkaaga tijaabinaya oo kaarka hadalka aan yeerin doono ama aan yeerinay kuwii aan hore u yeerinay kuwaan yeerin doono yani isku dayay inaad ku shubato waa kuwa aan yeerin doono isku dayay inaad ku shubato waxaad helaysaa waa faa'iido kaar hadal ama data ka dhigo ama ku hadal ahaan u isticmaal ayaad helaysaa dadkii hore u shubtayna already way heleen nasiibkooda way tijaabiyeen waayahay qofkii labaad ee guuleystayna hadda ayaan soo dhigayna insha Allah taala aad iyo aad ayaan u bogaadinayaa waa qof aad nasiibkiisu u wanaagsan yahay
ما شاء الله نسيب كيس أيود جابية وأنا مهدعلينينا إن شاء الله تعالى أديات يا أم هدعلينينا قد كان واسوق لنا إن شاء الله تعالى ما أردت سورة يجيسو عبر إيديان كنا جلسوا حيري وعبد الرحمن عبد الرزاق إبراهيم وحلينا أديات أم حسن تهاي نسيب كاجوات جاب ساعة عبد الرحمن قد كسوق لنا إن شاء الله تعالى بل سيدو وكبرنامج كي رأي جيسة مقلنا سيدو كله هدية وكقولستين عاون محو إسليه هاي محو هلي دونا وسويدين يا إسحاقنا قنوان سويدين ينا ددو يفرق بدنا ويسويدين يعني واي هاي وحن كور دوران وولكن عبد الرحمن إن شاء الله السلام عليكم داوضي. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله عبد الرحمن عبد الرزاق إبراهيم ولا ونكون مدعليننا إن هاي قفك لبعض عاو كجوليسي نسيب كيس جابيي عبد الرحمن ديجانك الدكتور يوم عرفت عاو سوى لو جلس عضو برامج كان السنة الجمعة هي نسيب كدوينها شركة إسقارسين تصنع. والله الحين جوجا ديجانك واحد جوجا شو شكله الباك. ما شاء الله عبد الرحمن هذا أم سنتهاي reer howlwadaag caawa waxaan filayaa inay maaragtay dadka inala socda ay qayb ka yihiin guud ahaan degmooyinka gobolka Naadir ayaa aad nalooga daawanayaa bal ka waran caawa yani sidee kugu suura gashay inaad ku guulaysato ku shubashada kaarka hadalka aan halkan ka yeerin bin kaarka sidee ugu shubaday waxaan filayaa IT-ga iyo faraha inaad aad maaragtay uga firfircoon tahay caawa sida dareemayo ما شاء الله ni waan ku dilnay Facebook aan laftan daawanaya fikirey marka waan ku daawanaa waan ku guuleystay insha Allah ilaahna uu igu guuley ما شاء الله bal ka waran caawa deegaanka aad joogto degmada howlwadaag iyo sida barnaamijka looga daawanayo dhalinyarada Soomaaliyeed barnaamijka jimcaha bal barteena Facebooka sidee u aragtaa dadweynaha iyo sida ugu xan yihiin ما شاء الله dadweynaha qaabana وجنا وكوجران Facebook وجان سمكله وداوmayaan shirkooyin rajayna insha Allah inay bistaan dawlad wadaartiin caaw ما شاء الله howlwadaag caawa si gaar ah ula socdaan sidoo ka dhawaajiyo walaalkeen barnaamijkeenan nasiinada jimcaha iyo nasiibka dadweynaha nagar alle ahaada daawadayaal عبد الرحمن haddii aan mar kale ku weydiiyo maxaad leedahay waad ku guuleysatay waa shirkadii soo waa halkii dadka doorar waa xarigo guuleysay ما شاء الله ما هذا رجعت كي هالشيء يعني كارد كي هذا الكي كود عيداته كريجو أما كهذا الآن أنت بقول استعمال أير تايم هاد وعم في ليه هذا نوع كلو كوهر السويديني سو عبد الرحمن واحد كقول يستي $8 أو يانا داتا آيات كقول يستي داتا إنترنت $1 نهاري أو هشام في ليه سيدو كلا سيميكار 4G شركة إسقارسين تصمم الكوجو تلاقي شيء waan ku siinayna si aad eheladaada iyo asxaabtaada iyo inta aad jeceshahay aad u gaarsiiso ma sha Allah aad iyo aad waxaan filayaa qaybta farsamada sawirka guuleysiga ama fariinta guuleysaha inay noo soo dhigeen qaybta controlka aad aan u salaamayaa shaashada ayaad ka daalacan kartaan dadweynaha la socda ma sha Allah دول محاولة مكرهين السلام يا ما شاء الله ما شاء الله ذاك عاوز سيجارة يبقى كلا أيام جود قلنا إن شاء الله تعالى عاوز فريق مقنع وفرنا يا إنه إن شاء الله تعالى سيدا أركان كاركي هران يري هذا كان صليا سيدا كم مقطع لحدني سيدي أفرتني السجال كنتني أفر لحدني تضبط لواتني أفر إبر سيدي كنتني السجال لواتني سدح ستة ونصي هذا والوجود يعني كاركي هذا الكيبورد عيداتك اليوم وهذا الآن أنت بقول استعمال أير تايم هاد وعم في ليه هذا نوع كلو كوهر السويديني ما شاء الله عبد الرحمن واحد كل ستي $8 ويانا داتا آيات كل ستي إنترنت هذا النهار وشام في ليه سيدو كلا السيميكار فورتي شكل صوت الوجود لك شيء الهولداج وخلينا ما شاء الله الرحمن عاود كوكي لها سيدا أركتان كيمي أيا كنا قناي وانجدي حين ما دام الوجود لستي
ما شاء الله كل تجمع عن كهنة باي سيستم أهان sidoo kale sawirkii screenshot oo noo soo diray oo soo dhigay soo saaray qaybta controlka aad u salaamayaa kaarka dalacanka afaraad dadweynaha la socda ma sha Allah ما شاء الله ذاك على سيجاره يوم كلا يوم بدل ان شاء الله تعالى عاصم كدواجي ولكن فريق ما هو سيرة الجماعة هذه سيدا أركان كان رفض أي تذكير وفرها مع قرالك أول أحسن سيدي فليدك سيدي هراء تيبك ما تحكو برنجعة وحنفية كشمير لوضي ستة يعني كان هذا الكتاب عيداتك الوادي أما هذا الآن تبغى استعمال عيدتها عن فلي هذا نسكا وقواري السويدي عبد الرحمن وحسن وليستي $10 ويانا داتا يتحولها هذا الهراء وشنفليا سوق الاستذكار فوق شكل إزدادين سؤال وجود لك شيء وزاي مساعد جلالي أصحابها أنت تعشى تدرسي يكون ترتيبك ما دام الجمهور الحكا هو ما شاء الله ما شاء الله ذاك على سيجاره يوم بس كلا يوم بدل ان شاء الله تعالى عاصم كدواجي ولكن فريق ما هو برنامج سيرة الجماعة وناس أركان كان رفض أي تذكير سيدكم الله لحسن سيدنا فليد السيارة تري أفر لحن كدوم لواتن أفر إيه سيدكم تري سجال لواتن سيدنا سيدكم الله يعني كان هذا الكتاب عيداتك الوادي الله وعلى العلم تبغى استعمال عيدتها عن كل هذا نسكا وقواري السويدي عبد الرحمن وحسن وليستي $10 ويانا داتا يتحول سيرات الانترنت هذا الهراء وشنفليا سوق الاستذكار فوق شكل إزدادين سؤال وجود لك شيء وزاي مساعد جلالي أصحابها أنت تعشى تدرسي
telefoonka yaa la mashquulin idinkoo raali ah barteena Facebook dadweynaha nagala soo xiriirayaan insha Allah taala jaanis ayaan u siinaa bal daawadaha guuleystay ayaan idin soo bandhigi doonaa insha Allah taala waxaan aad u rajeynayaa daawadaha guuleystay ayaan jaanis u siin doonaa insha Allah taala daawadaha guuleystay ayaan jaanis u siin doonaa insha Allah daawadaha guuleystay ayaan jaanis u siin doonaa waxaan aad u rajeynayaa insha Allah daawadaha guuleystay ee ku shubtay ayaan jaanis u siin doonaa weli waan ka wardhowreynaa insha allahu tacaala hawada ayaan soo gelin doonaa hadduu ilaahi subxaana wa tacaala inagu simo waxaan rajeynaynaa dadweynaha soomaaliyeed nala socda caawa barnaamijkeena inay aada maaragtay uga faa'iidaystaan nasiibkoodana ay tijaabiyaan insha allah daawadaha dadka ayaan soo gelin doonaa hadduu alla idmo dadka ayaan soo gelin doonaa hadduu alla idmo waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala daawadaha innaga ayaan la xiriirayna fadlan waa yahay inuu aada maaragtay inoola socdo ayaan rajeynayaa insha allahu tacaala fariintii haddayna soo gaartay qaybta controolka ayaan ka wardhowrayaa السلام عليكم داوده وعليكم السلام ورحمة الله Soomaaliya iyo dan daraad meel walba ay taagan tahay marka wallahi shukran waxa isleeyahay wax fiican waa helaysaa إن شاء الله وهذه الجار شركة سومتل waxay diyaar u tahay raaligelinta macaamiisheeda sharafta leh ee ku xiran shirkadda iyo page-keeda aad iyo aad aan ku bogaadinaynaa walaal waxaad ku guuleysatay $10 oo kaarka hadalka ah data internet iyo kaarka hadalka ee airtime inta waad ka dhigan kartaa sidoo kale waxaad ku guuleysatay sim kaarka 4G ee shirkadda isgaarsiinta Somtel waxaan filayaa inaad kula xiriiri doonto eheladaada asxaabtaada qaraabadaada iyo macaamiisha kugu xiran adiga iyo businesskaaga inta ku xiran inaad la xiriiri doonto sidoo kale waxaan rajeynayaa bishaan internet lacag ma ku soo doontid bishaan internet lacag ku soo na $10 ku soo
waa ku baatooyinkii biyo helaa waa ku baatantihiin xaafadooda meeshaan dadkii wixii doon waa u maleenaya nasiibkooda sii doonaan gaaraka xiga ama wixii dambe aa soo wadin waa gartay bal ka waran adeegyada Somtel waxay iga tilmaam $10 markaa ku shubanayso adeega ku laba laabmaya muxuu noqonayaa yaa markaa $10 oo kaada data internet aad u roganayso adeega ku laba laabmaya muxuu noqonayaa adeega la maro waa qaar adeeg 300 euro adeeg kartaa $10 ka door kartaa ama adeeg $100 afar adeeg kartaa $10 ka door kartaa bal ifaham daawada adoo raali ah waan kaaga mahadcelinayna inaad guuleysatay markaa internet ahaan $10 aad ugu shubanayso adeega ku laba laabmaya muxuu noqonayaa internet ahaan aan rabaa $10 inaan ku shubto inuu iga batana waan doonayaa markaan rabo internet ahaan adeega inuu ii laba laabmo salaar markaa rabto inuu ku noqdo 13 GB oo kala rabtaa inuu ku noqdo $10 ku shubatay 13 oo ku noqonaya adeega aad uga shubanaysa maxaa lahaa adeega waxaa la muraada يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام sidoo kale waxaa jiro ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله aad u mahadsantahay sidoo kale inaga lafteena macaamiisheena ayaan aad u daryeelaynaa waan ku awoodnaa inaan $10 oo ii dahab ah aan ku soo tuurno si aad 13 uga dhigato ما شاء الله وعدي لنا ما شاء الله وطايا سنة سمتل وانا ما جدي وين كان ما جاء ما شاء الله dadweynaha Soomaaliyeed ee kula midka ah dhalinyarada kula joogta iyana waan wada salaameynaa waxaad ku tiraahdaa inay soo galaan nasiibkooda iyagana ay tijaabiyaan asxaab badan oo shabeel meeshaan ku waxaan helay laakiin nasiibkooda soo galaan kuwa kale iyo wixii soo socdo ما شاء الله aad u mahadsantahay walaal ما شاء الله aad u mahadsantahay waan kaaga mahad celinaynaa insha Allah taala daawadaha guuleystay waxaan ku rajay ما شاء الله hal jaanis un baan leedahay walaalaha kala jaanisi aad ayaan ku salaameynaa insha Allah jumco wanaagsan walaal jumco wanaagsan walaal ayo walaal hay aad u mahadsantahay waayahay daawadaha aad buu iga qosliyay waa qof ma aragtay aad ma aragtay inoo la falgalay waan mahad celinaynaa ma sha Allah dhalinyarada wadooyinka fadhisa ee baraha Facebook sida tooska ugu jirta ee barteena Facebook Somtel aad ma aragtay isugu diyay caaw inay guuleystaan waan u mahad celinaynaa insha Allah waan bogaadinaynaa kaadkii afraad ayaa inaga baxay ma sha Allah sidaad aragtaan ba waa kaadkii baxay lambarkii aan hore u sheegnay mar labaad aan kugu celiyo inta aanan jeexjeexin sida shuruucda inoo taala aan horeba ugu sheegnay waa 65 79 68 54 eber 3 35 16 eber 3 waayahay igaraali hada daawadayaal xaqiiqda caawa aad baan u xiiqay ahamiyadda uu leeyahay barnaamijka sida aan daawadayaasha ula falgalaya ay cadeyn u tahay sumad iyo cadeyn buu tahay waan ka mahad celinaynaa ma sha Allah bal kaarkii shanaad ee ugu dambeeyay ayaan jecelahay sidaad aragtaan waa kaad aan la xoqan waa kaad aan la xoqan sidaad aragtaan halka waa kaad aan la xoqan hadda ayaan jecelnahay inaan xoqno qof walbana uu nasiibkiisa tijaabiyo waayahay inaad aragtaan ayaan filayaa yaa salaam daawadayaal aad inoo la socda caawa nasiibkiina tijaabiya waayahay qaybta kaamirada ayaan idinkugu beegnay waad aragtaan ayaan filayaa waayahay hadda waxaan diyaar u nahay inaan xoqno insha Allah taala waa kaad aan hore loo xoqan sidaad aragtaan waa ka hadda ayaan xoqaynaa insha Allah taala waayahay hadda ayaan xoqaynaa waa ka bal inala eega waa kaad aan hore loo xoqin waayahay hadda ayaan xoqaynaa insha Allah taala qof walba nasiibka caawa lagama xigo guusha libinta waa adiga iyo xaggaaga bal nasiibkaaga tijaabi barbarkay ka baxdaa caawa waa bakeela qaleen qof walba nasiibkaaga tijaabi caawa su'aal kuma weydiin doono su'aal diini laguma weydiin doono su'aal aqoon guud laguma weydiin doono su'aal la xiriirta productyada shirkadda laguma weydiin doono caawa waa ciyaartii ma aragtay farfudeedka gacanta un baan doonaynaa caawa inaad ma aragtay isku dayda inaad geliso kaarka aan yeerin doono insha Allah waana kaarkii shanaad waxaan filayaa daawadayaasha inay aad isu diyaariyeen qof walba lambarka looga shubto inuu ma aragtay isku dayay inuu geliyo
waa xidig 141 xidig wuxuu iga warsugaaba ama iga war dhowraa waa inaan yeeriyo pin cardka kadibna insha Allah taala afar gees ama hash uu dhihi doonaa isla mar ahaantaana uu diri doonaa send uu leeyahay waayahay qof walba nasiibka cardka qaybtiisa dambana waad ka aragtaan inay ku qoran tahay habka loogu shubto habraac fudud ee la maro markaad ku shubanayso ama ku xoqonayso cardka hadalka ee shirkadda isgaarsiinta Somtel ama scratch cardka waa xidig 141 xidig deedna kili pin cardka aan yeerin doono insha Allah taala ugu dambeyntiina hash leh ama fargeys kadibna okay umba leedahay waa diraysaa waayahay daawadayaal aad iyo aad u mahadsantihiin daawadaha ila socdo bal isu diyaari dareenkaaga soo xaadiri maskaxdaada qalbigaaga dareenkaaga inaad aad ila socotaan rajeynaya dhugasho fiicanna aad samayso insha Allah kaadka aan yeerin doono waayahay bal aan gudagalo waqtiga aad inoogu yaraawadeed waa 62 92 28 43 15 51 65 59 waayahay weli waxaa laga soo qorayaa balayaara tartiib cali oo tartiib waayahay aan dib ugu celiyo maasha Allah waa 62 92 28 43 15 51 65 59 waaya waa halkii ugu dambeysay si tartiib aan u akhriyo maasha Allah daawadayaal waa idin furantahay inaad nasiibkiina tijaabisaan qof walba lagama xiga caawa nasiibkaaga tijaabi waayahay waa markii ugu dambeysay daawade waan u mahadcelinaynaa macaamiisha sharafta leh ku xiran barteena Facebook Somtel Soomaaliya ugu dambeyntii aan ku celiyo waa markii saddexaad akhrinta ama yeerinta pin cardka aan rabno dadweynaha Soomaaliyeed inay ku shubtaan cardka ku jira isla mar ahaantaana ay ku guuleystaan hadiyadaha kale ee shirkaddu ugu tala gashay waa 62 92 28 43 15 51 65 59 waayahay waa markii ugu dambeysay aad iyo aad u mahadsantihiin bal yaa isku dayay oo ku shubtay caawa yaa salaam dadkeenii faraha fududaa waxaan filay inay markiiba ku shubteen oo ay nasiibkooga tijaabiyeen dadka aysan fursad u saamixin insha Allah taala kaadharka xiga aanu jaaniska u siin doona inay maaragtay uga shuban doonaan insha Allah waan u mahadcelinaynaa dadweynaha Soomaaliyeed inoo soo diraya kommentiyada afkaarta kala gudwan talooyinka inoo soo diraya maasha Allah dhaxalgalka ila xiriira barnaamijka iyo guud ahaan shirkadda aad iyo aad u mahadsantihiin aan leenahay caawa habeenimo jimco ah xaqiiqdii waa habeen laga nasanayo shaqooyinkii iyo howlihii toddobaadka waxaan ugu talagalnay dadweynaha Soomaaliyeed inaan kula damaashaadno barnaamijkan aan ugu magac darnay nasiinada jimcaha iyo nasiibka dadweynaha ee shirkadda isgaarsiinta Somtel shirkadda isgaarsiinta Somtel had iyo jeer waxay u taagan tahay raaligelinta macaamiisheeda iyo inay qanciso ay u soo gudbiso had iyo jeer adeegyadii ugu dambeeyay ay u soo bandhigto baahidooda isgaarsiineedna ay daboosho haddii ay ahaan lahayd internet iyo haddii maaragtay ku hadal buu ahaa lahaa intaba shirkaddu had iyo jeer waxay u taagan tahay raaligelinta daboolidda baahiyaha macaamiisheeda serviceka ay bixisana shirkadda sida ay macaamiisheena u aqireen waa adeeg aad u tayo badan maasha Allah haddii ahaan lahayd dhinaca internetka sidaan hore ugu dhawaajino waa shirkaddii ugu horeysay ee adeega 4G Soomaaliya keenta iyo geeska Afrika markaan dhahno waayahay aad iyo aad u salaameynaa mas'uuliyiinta maamulka shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta Somtel oo had iyo jeer u taagan qancinta macaamiisha iyo baahitirka macaamiisha had iyo jeer ku xiran shirkadeena waxaan si gaar u bogaadinaynaa qaybta daryeelka macaamiisha had iyo jeer u taagan maaragtay inay qabtaan telefoonada macaamiisha uga imaanayso xilli waliba saq dhexe xilli hore subax galab had iyo jeer maasha Allah shaqaaleena waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin sidoo kale baranjiyada kala gedisan waa xarumaha kala gedisan ee ku yaala magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka degmooyinka gobolka Banaadir oo dhan xarumaha ku yaala shaqaalaha had iyo jeer heeganka ku 24 saac shirkadda u shaqeynaya waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin qof walba goob adag ayuu maaragtay position adag ayuu ka taagan yahay shirkadda hawl adagna wuu hayaa shirkadduna way bogaadinaysaa dhammaan shaqaalaheeda macaamiisheeda had iyo jeer ku xiran loyal customerka hadii jeer nagu xiran waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin la'aantiin shirkadda maysan noqoteen guud ahaan daabshir groupna wada salaameynaa maasha Allah waayahay waxaynu bartanka uga jirnaa barnaamijkeenii nasiinada jimcaha iyo nasiibka dadweynaha ee shirkadda isgaarsiinta Somtel caawa waa habeen taariikhi ah waa habeen aan loo kala hari doonin daawadayaal kala gedisan oo jooga gobolada dalka oo idil ayaa caawa nasiibkooda tijaabinaya
waan la yaabanahay caawa reer baay iyo bakool iyo dadkii maaragtay habeenadii ugu horeeyay aad nasiibkooga u tijaabinayo ma hayo waxaan filayaa insha allah daqiiqadaha soo socda inaan arki doono guud ahaan gobolada dalka reer jowhar iyo dad fara badan oo aad baled weyne maasha allah yani hilmaamin gobolka hiiraan dad fara badan baa inagala soo xiriirayay aad iyo aad aan u salaameynaa sidoo kale macaamiisheena maaragtay qoraallada inoogu soo dirayo barteena Facebook Messengerka aad aan u salaameynaa maasha allah kommentiyo fara badan oo aad dhaxalgal u ah waan aad ula dhacnay ay noo soo diraan had iyo jeer waxaan leenahay waad mahadsantihiin bulshada Soomaaliyeed ee guud ahaan ku xiran barnaamijka ee u diyaar garooday galabta abaara afartii galabnimo ilaa iyo hadda u taagan barnaamijka la socda live-keena ama tabinteena tooska aad ku daawanaya waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin dhammaan macaamiisha guuleysatay iyo kuwa isku diyay iyagana waxaan leenahay waan bogaadinaynaa aad iyo aad u mahadsantihiin weli waxaynu bartanka uga jirnaa waa barnaamijkeeni nasiinada jimcaha iyo nasiibka dadweynaha waayahay waxaan filayaa caawa in maaragtay kaadharkii lagu wada guuleysanayo aad iyo aad aan u salaameynaa dadweynaha Soomaaliyeed macaamilka guuleystay maasha allah waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan filayaa maaragtay inuu nasiibkiisa tijaabiyey waan wada bogaadinaynaa dhammaan shaqaalaha shirkadda iyo macaamiisheena had iyo jeer u taagan maaragtay in adeegyada cusub ee shirkadda soo bandhigto ay si fudud u qaataan maasha allah dadweynaha kalena ay usii sharxaan maasha allah adeegyadu had iyo jeer waxa weeyaan waa adeegyo casri ah isla sanadan 2019 shirkadda adeegyo fara badan ayay soo bandhigtay oo ku biiraya adeegyadii hore marka daawadahan guuleystay ayaan jecelahay inaan si toos ah qadka u soo geliyo maasha allah waxaan leenahay daawada aad iyo aad u mahadsan tahay dadweynaha commentiyada kala duwan noo soo diray waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsan tihiin fariimihiina in dhambaalada quruxda badan aad noo soo diraysaan waan u taaganahay had iyo jeer inaan maaragtay fulino insha Allah taala talooyinkiina dhaxalgalka ah maskax ra'yiga adiga ka maqan maskax walaalka oo ku jira marka aadaan u rajeynaynaa insha Allah inay naga baqaylin talooyinka iyo afkaarta dhaxalgalka ah hooyo tusaalooyinka aad ku kala gidsan ma sha Allah dadweynaha Soomaaliyeed waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeenii nasiinada jimcaha iyo nasiibka dadweynaha ee shirkadda isgaarsiinta Somtel waayahay waxaan filayaa السلام عليكم داوده وعليكم السلام ورحمة الله magaca iyo deegaanka magaca waxa waaye Saciid Cabdullaahi deegaankana waa warta nabadda ma sha Allah Saciid aad iyo aad ku salaameynaa bal warta nabadda ka waran caawa sidee looga socdaa barnaamijka nasiinada jimcaha si fiican loola socdaa barnaamijkan Somtel nasiinada jimcaha ma sha Allah aad iyo Saciid ma markii kuugu horeysay ee barnaamijyada Somtel ka qayb qaadato ما شاء الله عاوة إما صدقيقة كوو قادتي إنا سوق شو ما شاء الله ما شاء الله سعيد آدي آدم كوو مهد علينا بالكورة البرنامج كا iyo daayarta siday ula socdaan iyo xilliga maaragtay barnaamijka la baahiyay intaba ما شاء الله barnaamijka si fiican loo socdaa barnaamijka Somtel ee dana Facebook lagu soo kordhiyay maalmahan si fiican ay u socdaan waa ciidii ما شاء الله سعيد هذا أمها سنتهاي بالكورن ما جوريجاجي أيات جوكتا مثل بالشاء أيات كل حد جرتاو ما يلا لو حويه وحويا مقاهيها يجوا على نصينة تجد جوكتا ما شاء الله بدوينا فربنا وحافظوا ذو كسوان وشاشة الله الصعدة وتيفي الدعوانا يا مقاركود إنترنت دي كجيران أيات قريب كتايسلان فيليو سعيد ما شاء الله waxaan filayaa inaad guuleysatay bal ku shubashada markii koobaad miyaad hore uga shubatay ma markii labaad ba ma markii saddexaad waa su'aal aan weydiinay dadkii ka horeeyay adiga lagu weydiinayo ma markii labaad aan ku shubto ma sha Allah yani ma waxaad ku jirtay dadkii ii soo qorayay yani bal si tartiib ah u sheeg waxaan ku jiray waxaan ahay guuleystii labaad ah inkastoo aan sawirkaan soo dirin oo aan web soo dirtay warkaan ما شاء الله هذا وما سنت سعيد وحدونينا إن شاء الله إنا كواب على مرينا سعيد وحد محاد سلالة وتكون ليستي والله أيوة طلع شيء Somtel يا رجينا ما شاء الله سعيد هذا وما سنت وحد تكون ليستي موبايل كا شركة إسقارسين Somtel يكون طلع شيء سيدو كلا سعيد وحد تكون ليستي سيمي كارد شركة إسقارسين Somtel أي بحنا يسوق سيدو كلا سعيد وحد تكون ليستي $10 oo ma aragtay kaarka hadalka ay shirkadda isgaarsiinta Somtel kuugu tala gashay adigoo horeyna u rijaaj gareeyay $1 ayaan filayaa Saciid
ما شاء الله عاو وحويان واسكا قرؤون بل كورنا abaalmarinada aad ku guuleysatay والله أنا فرحتنا هاي صوت الراديو مع صوت برنامج كان ما شاء الله سعيد آدم كوجو مهد علينا إننا وانكو سلامينا وحارجيننا إن شاء الله برامجنا كلا حجة يجمعون كلا إن أتكلم قادم دونتي إن شاء الله ورجينا أنا ما سنتين يا سعيد نودي عنا كورجيننا إن شاء الله وحارجيننا مالنت أحدنا إن نقص دونة هدية دار إن شاء الله وأنت حدا إن شاء الله وسيجارا كل صحيح دونا سعيد ما سنت وهي هاي ما شاء الله وحد مودا kaararkii waxba iyo ma harin kaarkii ugu dambeeyay ayaan ku jiray insha Allah hal kaaran ku direynaa si aan dadweynaha maaragtay u sii qancino waxaan tilmaamaynaa ma sha Allah numberkii hore ee uu ku guuleystay walaalkeen Saciid waa 6559 waa sida aan marka yani ka dhawaajinayo waa 6292 waa 2843 sida aad aragtaan sidoo kale waxa ugu dambeeya waa 6559 sida inoo taala sharciga maadaama lagu guuleysto screenshot kan qofka inoo soo diro systemka teamka joogana ay inoo xaqiijiyaan waa kaar gubtay oo qofka hadiyadiisa uu ku qaatay halka ayaan uga baxaynaa waayahay qaybtii labaad ayaan guda galnay daawadayaal sidaad aragtaan hadda ayaan bacda ka fiiqaynaa ma sha Allah wuu xiran yahay prepaid-ka sidaad aragtaan prepaid card-ka hadda ayaan bacda ka fiiqaynaa daawadayaasha hortooda kaamirada hawshu waa transparency waa qaab hufnaan xambaarsan waa barnaamij ma aragtay saxarka laga ilaaliyay ma sha Allah oo sidaad aragtaan waa yahay bal yuu noqon karaa qofka kale ee guuleysan doona serialadana waa wada haysanaa waa inoo qoran yihiin insha Allah idinna waadna la arki kartaan waa yahay kaarkii lixaad ayaan jeclahay inaan guda galo iyo qofka nasiibkiisa tijaabinaya sidaad aragtaan hadda ayaan jeclahay inaan xoqo waa kaad xiran dadweynaha hortooda ayaan ku xoqaynaa insha Allah qof walba soo u arko in hawshu ay daa furan tahay wax horay loo xoqayna aysan jirin ma sha Allah sidoo kale waxaan jaanis u siinaynaa dadweynaha qof walba sida ay maskaxdiisa u furan tahay farihiisuna u fudud yihiin inuu nasiibkiisa u tijaabiyo dadweyne fara badan ayaa ma aragtay fikirkooda ka soo dhiibtay si tartiib ahna waan u sheegaynaa insha Allah si markiiba loogu shubto uu qof walba nasiibkiisa u tijaabiyo wali waxaynu bartanka uga jirnaa barnaamijkeeni nasiinada jumcaha iyo nasiibka dadweynaha ee shirkadda isgaarsiinta Somtel waana qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay daawadayaasheena sharafta leh waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin sidaad ula socotaan had iyo jeer barnaamijkeena aad ugu xiran tihiin waa idinku bogaadinaynaa waayahay bal daawade kolka aad tiraahdo ama aad geliso habraaca fudud ee shirkadda markaad scratch card-ka ku xoqonayso waa xidig 141 xidig waxaad iga sugtaa waa pin card-ka aan yeerin doono insha Allah xidig 141 xidig pin card-ka aan yeerin doono kadibna hash ama calaamadda afar geeska aad leedahay ugu dambeyntiina send ama okay waa diraysaa waayahay aan guda galo waayahay dadkii faraha fududaa iyo kuwii faraha cuslaa iyo intii meel dhaxaadka ahayd waxaan filay inay aad isu diyaariyeen waayahay aan guda galno waa 65 26 76 74 waayahay bal markii labaad aan ku celiyo waa 65 26 76 waa 55 14 58 daawade marka saddexaad aan kugu celiyo si aad nasiibkaaga u tijaabiso waliba si tartiib ah ayaan u sheegaynaa waa 65 26 waa 55 ugu dambeyntiina 58 waayahay yaa nasiibkiisa tijaabiya oo ku shubtay waa kaarkii lixaad dadweyne fara badan ayaa hawada insha Allah tacaala soo galay oo nasiibkooda tijaabiyay qaarkoodna ay ku shubteen qaarkoodna ay haleeli waayeen inta ku shubatayna waxaan fursad u siinay inay ku guuleystaan adeegyada kala gedisan ee shirkadda ugu tala gashay waxaan aad u bogaadinayaa qaybta farsamada walaalkeen Cabdiwali nooca yani magzarka iyo makiinadaha way inoo kala rogrogaya daawadayaasha guuleystayna shaashada inoogu soo bandhigaya waa cali taaho barnaamijka idin daadihinaya aad iyo aad aan u bogaadinaynaa dadweynaha Soomaaliyeed caaw xaqiiqda dareenkeena ma cabiri karno waad ku mahadsantihiin sida aad ula socotaan barnaamijyadeena had iyo jeer aad ula falgashaan waa idin bogaadinaynaa soo dhawaada ayaan idin leenahay had iyo jeer ku xirnaada barteena Facebook ee Somtel Soomaaliya soo comment gareeya like gareeya share gareeya videoga aan soo dhigno ugu dambeyntiina isku dayayna nasiibkiina tijaabisaan
sida barnaamijka jimcaha barnaamijka nasiinada jimcaha iyo nasiibka dadweynaha insha allahu tacaala abaalmarino fara badan ayaa inoo xigi doona waxaan iclaamin doonaa dhowaan insha allah abaalmarino kala gedisan oo loogu talagalay page-ka qof walow ha ka maqnaan ha moogaanin page-keena Somtel Soomaaliya ee shirkadda isgaarsiinta Somtel adeegyada kala gedisan ee bulshada Soomaaliyeed had iyo jeer usoo kordhiso waa adeegyo aad u jaban isla mar ahaantaana tayadoodu aad u sareyso macaamiil waa adigoo kulansaday dunidii oo idin haddii aad heshay adeeg tayaysan isla mar ahaantaana qiimo jaban marka insha allahu tacaala had iyo jeer nagula cawey nagula raaxayso adeegyada kala gedisan ee shirkadda isgaarsiinta Somtel usoo bandhigayso bulshada Soomaaliyeed adeegyada hore loo soo bandhigay iyo kuwa cusub aan idin qarinayno insha Allah dhawaan idin la wadaagi doono had iyo jeer ku xirnaa barteena Facebook ee Somtel Soomaaliya iyo baraheena kale aan bulshada kala hadalno waa Twitter-ka iyo baraha kale aan bulshada kala hadalno insha Allah tacaala qof walow aragtidaada fikirkaaga ma aragtay ra'yigaaga aad ugu biirinayso aad ayaan usoo dhaweynaynaa insha Allah inoogu soo dir baraha kala gedisan ee macaamiisheen wax inoogu soo diraan waan bogaadinaynaa dadweynaha Soomaaliyeed ee had iyo jeer ku xiran barteena Facebook-ga iyo barnaamijyada kala duwan ayaan qabano la'aantiin barnaamijyadan maysan suuragalayn maysan qabsoomeen idinka ayaa sabab u ah suuragelinta qabsoomidda iyo maaragtay barnaamijyada inay noqdaan kuwa dhaxalgal ah oo bulshada Soomaaliyeed aad ula dhacaan aad iyo aad aan idin bogaadinaynaa had iyo jeer insha Allah tacaala ku xirnaada shirkadda isgaarsiinta Somtel nasiibkiina tijaabiya idinkoo aayar oo iska guranaya hadiyadaha kala gedisan aan idinku talagalnay caawa waa habeen gaar ah waa habeen ka duwan habeenadii aad horay inoo arki jirteen haddaan horay su'aalo idin weydiin jirnay xoogaa aayar hal xiraalayaal iyo su'aalo adag mararka qaar aan soo bandhigi jirnay caawa su'aal ma jirto waa habeen jimco ah dadweynaha Soomaaliyeed ee nasanaya shaqooyinkii iyo howlihii toddobaadka laga nasanayo waxaan ugu talagalnay xaafadahooga iyagoo jooga goobaha loo dalxiis tagay iyo goobaha lagu nasto inaan maaragtay la wadaagno aan barteena Facebook ee Somtel Soomaaliya aan kala hadalno aad iyo aad aan u salaameynaa insha Allah qof walba nasiibkaaga tijaabi hadiyadaha kala gedisan ee shirkadda kuugu talagashay haddii uu ahaan lahaa modem 4G ga shirkadda oo ay kugu jirto 8GB ayaad ku guuleysan kartaa waa xawaarihiisa aad u sareeya sidaan hore ugu dhawaajin waa 4G shirkaddu maalmihii dambena waxay idin soo kordhisay adeega 4.5G oo loo yaqaano 4G plus oo adeega ugu dambeeyay dunida laga isticmaalo 5G unbaa ka dambeeya kaana weli dunida labaad iyo dunida saddexaad inta uusan soo gaarin dunida koobaad xitaa laga wada helo meelo kooban laga isticmaalo waa mid loogu talagalay in lagu kaxeeyo gawaarida dheereeya ayaa lagu kaxeeyaa iyo maaragtay agabyada kala gedisan ee loogu talagalay maaragtay inay xawaaro aad u sareeya lagu kaxeeyo waayahay aad iyo aad aan u salaameynaa weli bini aadanka looma ogolaanin insha Allah tacaala shirkaddu waxay diyaar u tahay hadii jar inay raali geliso macaamiisheeda una soo kordhiso adeegyada kala gedisan hadba adeegii ugu dambeeyay dunida ka jira ee jacasha inay la wadaagto sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa dadweynaha Soomaaliyeed ee had iyo jeer ku xiran barteena iyo kuwa inoo soo qoraya afkaarta kala gedisan talooyinka ra'yiyada dhaxalgalka ah oo aan isleenahay wax badan bay idinku soo biiriyeen waad ku mahadsantihiin inaad maaragtay maskaxdiina inoo dhalaalinaysaan maskaxdiina aad shiilaysaan oo wixii markaa talo iyo tusaale iyo hoodo tusaaleyna intaba aad nagu biirinaysaan caawa xaqiiqdii dareenkeena ma qiyaasi karno aadaan u faraxsanahay sidaad idinkaba nasiinada jimcaha aad u qaadanaysaan ayaa naguna idinla qaadanaynaa caawa waxaan idinkula dabaashaadaynaa barnaamijkan nasiinada jimcaha iyo nasiibka dadweynaha ee shirkadda isgaarsiinta Somtel waxaan leenahay daawadayaal aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan filayaa daawadihii ugu dambeeyay ayaan ka wardhowraynay qaybta controlka ayaan ka wardhowrayaa haddii uu jiro qofkii guuleystay waxaan rajeynaynaa insha Allah tacaala sidaan horeba ugu dhawaajinay marka shuruudda ugu horeysay uu soo fuliyay oo ahayd inuu like saaro page-keena comment gareeyo share gareeyo video-ga live-ka hadda aan soo dhignay iyo boosyada guud ahaan aan soo dhigno ugu dambeyntii inuu maaragtay nasiibkiisa tijaabiyo oo maskaxdiisa iyo maaragtay farihiisa isugu geeyo inuu ku shubto prepaid card-ka aan halkan ka yeerinaynay waxaan filayaa dadweyne fara badan oo guuleystay inay jiraan macaamiishii hore nasiibkooda u tijaabisay waxaan u rajeynaynaa insha Allah inay jaanis u siiyaan dadweynaha kale aan weli nasiibkooda tijaabin sidoo kale weli waxaynu qudareynaynaa insha Allah guuleystaha inuu inoo soo diro oo screenshot ka qaado fariinta guuleysiga barnaamijka waa fariinta cadeynaysa inuu ku guuleystay ku shubashada
kaadhka hadalka aan yeerinay uu rijaajin uu sameeyey inuu nala soo wadaago si aan dadweynaha soomaaliyeed ula wadaagno shaashada aad ka aragtaan waa barnaamij 100% hufnaan ku dheehan tahay qof walba uu nasiibkiisa tijaabinayo kaadhka hadalka sidaan idin tusinay serialkiisa waad wada aragtaan shaashada waad ka eegi kartaan kaadh xoqan maaha waa kaadh aan weliba la xoqin macaamiisha hortooda ayaan ku xoqaynaa si uu qof walba u arko markaa kadib ayaan yeerinaynaa waa qof walow dadaalka ah sidaad maaragtay farahaaga ugu fudud yihiin maskaxdaada u furan tahay nambarada 3 jeer aan sheegayno waa sidaad u qabato waayahay oo maskaxda markaa ay capture ugu samayso aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadweynaha Soomaaliyeed xaqiiqdii waxaan leenahay insha Allah barnaamijyo fara badan iyo hadiyado kala gedisan iyo abaalmarino ay shirkadda kugu tala gashay jiro aan idin la wadaagi doono dhawaan waayahay daawadihii ayaan filayaa inuu maaragtay fariintii ina la soo wadaagay aad iyo aad aan u salaamayna xaqiiqdii caawa dareenkeena ma qiyaasi karno waxaan filayaa barnaamijka inaan ugu talagalnay 1 hour haddana ilaa iyo maaragtay 30 daqiiqo dheeri inaan ku darnay intaas waxay tusaale u tahay sidaan ugu helana had iyo jeer qancinta iyo raaligelinta macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda isgaarsiinta Somtel isticmaala adeegyada kala gedisan haddii ahaan lahayd ADSL-ka shirkadda B2B ga shirkadda waa internetka sidoo kale maaragtay adeega ila soo hadal ee shirkadda isgaarsiinta Somtel ama VoIP-ka aan u naqaano postpaid-ka shirkadda scratch card-ka ku shubta had iyo jeer easy load-ka idahab recharging-ka sameeya had iyo jeer ugu shubta haddii ahaan lahayd kaar hadal iyo data internet sidoo kale internetka qaybihiisa kala duwan waa mobile internetka dadweynaha isticmaala had iyo jeer uga shubta maaragtay kaarka hadalka ama idahab uga shubta ama easy load-ka markaa uga shubta adeega 3G adeega 4G adeega 4G plus oo intaba kuugu shaqeynaya sim cardka Somtel had iyo jeer si fudud ayaa ugu isticmaali kartaa xawaarihiisana aad ayuu u sareeyaa qiimo jabanna waad ku helaysaa waa iska guro ma sha Allah waa iska guro waxaan filayaa daawadihii inaan idiin soo saarnay shaashada oo daawadayaal aad aragtaan idinka ayaa xukminaya inuu ku guuleystay in kale waayahay inaguna waxaan idiin tusi doonaa kaadhka uu ku guuleystay ayaan idinla wadaagi doonaa insha Allah taala iyo hadiyada ay shirkadda ugu tala gashay waa inagoo had iyo jeer idin helan iyo idinkoo inoo hamuun qaba soo dhawaada ayaan leenahay ku soo aruura soo buux dhaafiya barteena Facebook ee Somtel Soomaaliya si aad maaragtay hadiyadaha kala gedisan aan idinkugu tala galnay aad isaga gurataan oo had iyo jeer kolna aan idiin seegin waa iska guro nasiibkaaga tijaabi waayahay weli waxaynu bartanka uga jirnaa barnaamijkeenii nasiinada jimcaha iyo nasiibka dadweynaha ee shirkadda isgaarsiinta Somtel ee dadweynaha Soomaaliyeed aad iyo aad aan u bogaadinaynaa waana u mahadcelinaynaa sida ugu xiran yihiin shirkadda isgaarsiinta Somtel nasiibkooda ay u tijaabiyaan maaragtay barnaamijyada kala gedisan ee shirkadana uga qayb qaataan waayahay daawadaha waxaan filayaa inaan shaashada soo saarnay qaybta controlka waxaan filayaa inaad aragtaan insha Allah taala waayahay insha Allah daawadaha ayaan qadka soo gelin doonaa si aan ula wadaagno dadweynaha Soomaaliyeed ku xiran barteena Facebook-ga la soconaya hadda habsan socodka barnaamijka sida ay dadweynaha qof walba nasiibkiisa u tijaabinayo isla mar ahaantaan ugu guuleysanayo hadiyadaha kala gedisan ay shirkadda ugu tala gashay waa qof walba nasiibkaaga tijaabi ayar maaragtay u qaado ama u guro hadiyada ay shirkadda ku siinayso insha Allah taala waayahay weli waxaynu bartanka uga jirnaa barnaamijkeenii waxaan ka wardhowlaynaa daawadihii guuleystay insha Allah ugu dambeyntiina su-aasha maaragtay kaadhka ugu dambeeya ayaan yeerin doonaa insha Allah السلام عليكم داوده داوده magaca iyo deegaanka عبد الله ابراهيم الشيخ واي degmada Kulbadaag oo caawa kacsan
والله ما شاء الله reer holodaag aadaan u bogaadinaynaa cabdullaahi soo dhow aan ku leenahay holodaag xagee kaga sugan tahay cabdullaahi isgoyska ma sha Allah aad iyo aad u mahadsan tahay bal ka waran haddii aan su-aal ku weydiino kaadhka waxaan yeerinay ilaa iyo tiro 3 jeer ah goorma ahayd xilliga aad ku shubatay ma markii koobaad ba mise waa markii labaad ama waa markii ugu dambeeyay saddexaad والله horta inta badan numberka waxaa geliyay marka koowaad hal number oo iyaga dhammaa tookada labaad ما شاء الله ما شاء الله عبد الله نصيب وعن وان كاغا ما هدعلنا نصيبكاga tijaabisay isku dayday ma aragtay inaad ku shubato waxaan filayaa ma aragtay IT background ma leedahay Cabdullaahi ما شاء الله وجامعة Cabdullaahi jaamacadee aad ka baxday mas'uuliyad aad dhigataa Dar es Salaam aan dabay ما شاء الله عبد الله aadan ku soo dhaweynayna xaqiiqdii waan kaaga mahad celinaynaa inaan nasiibkaaga tijaabisay bal xaafadda miyaad ku soo ما شاء الله كل qof baa ka sii dambeyn doona waxaan doonayaa xaafadii miyaad ku sugan tahay mise magaalada dhinac baad ka joogtaa oo meelaha bulshada isugu timaada joogtaa xaafadan ku suganahay wali saxanka cashada kor fadhiya ما شاء الله عبد الله الله كو بركeeyo إن شاء الله تعالى waan ku abaalmarinaynaa عبد الله waxaan filaynaa nasiibkaaga tijaabisay maxaad isleedahay waad ku guuleysatay والله waxaan ku qanacsanahay nasiibkayga iyo abaalmarinta Somtel ما شاء الله nasiibkaaga iyo abaalmarinta ay Somtel ku guddoonsiisay aad ugu qanacsantahay عبد الله ما شاء الله عبد الله aadan kugu mahad celinaynaa waxaad ku guuleysatay $15 oo data internet shirkadda isgaarsiinta Somtel ay kugu tala gashay iyo simikaadka Somtel ayaad ku guuleysatay Cabdullaahi oo 4G ah aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin insha Allah waxaan filayaa bishan iyo bisha soo socotaba internet kuma shuban doontid sidaan saas waa insha Allah bal ka waran internetka Somtel والله ما شاء الله وحوار سره واي marna ilbiriqsi aan ka nashanaynin waxaa leeyahay meeshii nagtii wada ما شاء الله aad u mahadsantahay Cabdullaahi waan kaaga mahad celinaynaa insha Allah sidaan noola falgashay oo noola shaqaysay ugu dambeyntii maxaad ku boorinaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee kula midka caaw nasiibkooda tijaabinaya dhalinyarada dhan waxaa leeyahay haloo soo duceysto Somtel mobilka la qabsado tartankana la soo galo ما شاء الله waxa weeyaan waxa leedahay iska gurta oo leedin kama xigay saas waa gobol walbo joogtid waxaa maqlayaa dareer baa boqol inaa naadiye isku caawa kale inta ka muqdisho ay ay kala saad keenan leena gobolada ما شاء الله caaw wali barnaamij hodaaga ugu badan Cabdullaahi aadan ku salaameynaa insha Allah ta'ala ayaad baa mahadsantihiin ما شاء الله aadan mahadsantahay Cabdullaahi waxaad moodaa barnaamijka inay bulshada iyo idin laga qayb galayaan insha Allah ta'ala aadan u salaameynaa intii aan ugu talagalnay waxaad moodaa in inka dheeri aan ku darnay taas waxay cadeyn iyo maaragtay marag doonta ay u tahay sidaan ugu helnaa had iyo jeer raaligelinta bulshada Soomaaliyeed su'aasha ugu dambeysay inaan sheegaa waxaan filayaa kaadka ugu dambeeyay inaan yeeriyay si aan ugu muujino bulshada maadaama ay aad inoola soo xiriirayaan qaybta controlkana ay baaqayso bartii Facebook aad loo soo buuxdaafiyay sidoo kale telephone numberka aan maaragtay hawada bulshada Soomaaliyeed uga xusnay ee 62 aad loo soo buuxdaafiyay waxaan ku dari doonaa hal kaad taana insha Allah ta'ala waxay astaan u tahay yani maadaama barnaamijka aan idleynay inaan qancino bulshada Soomaaliyeed qofka ugu dambeeya insha Allah ta'ala ayaan rajaynayaa inuu nasiibkiisa tijaabiyo insha Allah ta'ala kaadka ay yeeri doonana uu ku shubto kadibna insha Allah ta'ala isaga ayaan ku soo gunaanadi doonaa insha Allah khitaamuhu miski isaga ayaa inoo soo afjari doonaa kaadkii uu Cabdullaahi ku guuleystayna hadda ayaan jaraynaa waan xusaynaa waa 65 26 waa 58 shuruucda barnaamijka u taala si aan u fulino waad aragtaan daawadayaal waa kaadkii aan hadda yeeriyay insha Allah ta'ala waa jarjaraynaa oo waxa weeyaan wuu gubtay maadaama lagu guuleystay serialkiisa iyo maaragtay lambarkiina waan haynaa insha Allah bal kaadka ugu dambeeya yaa nasiib leh
yaa hoodiya ayaan leh yaa habeen dhalada yaa nasiibkiisa tijaabinaya iyo maskaxdiisu iyo farihiisu ay wada shaqaynayaan yaa markiiba hore uga shubanaya waayahay waxaan jeclaa inaan aad u dedejiyo midkan laakiin weli waa lay baaqayaa qaybta controlka iyo dadweynaha inoo soo qoraya waxaa leeyahay bal cali oo tartiib hada dejinin waa midkii ugu dambeeyay khitaamuhu misk marka insha Allah bal aayar si tartiiba u sheeg waayahay sidaa un baan yeeli doonaa insha Allah dadweynaha Soomaaliyeed si aan u raali gelino waayahay bal daawade haddii aad maaragtay fulisay ama aad samaysay habraaca fudud ku xoqashada kaadhka hadalka ee shirkadda isgaarsiinta Somtel waa xidig 141 xidig biinka ay yeerin doona ayaad gelin doontaa waa biin kaadhka ugu dambeyntiina afar gees un baad leedahay ama hash ugu dambeyntiina stepka ugu dambeeya sendi un baad leedahay ama okay waad diraysaa waayaan ugu celi dadweynaha waa xidig 141 xidig biin kaadhka ay yeerin doona ayaad gelin doontaa insha Allah ugu dambeyntiina hash kolka aad hash tiraahdana waad diraysaa waa sendi ama okay waayahay ugu dambeyn xidig 141 xidig biin kaadhka ay yeerin doono geli fadlan macmiil ugu dambeyntii hash ama afar gees kolka intaas fuliso oo habraaca fudud aad samayso sendi ama okay un baad leedahay isla markiina rijaajin ayaad samaynaysaa insha Allah wuu kugu shimi doonaa adiga ayuu kugu shimi doonaa adiga oo aan kuu jeedo gabdhaha walaalaheena caawa gabdhaha ma arka ma garan kara hal gabadh oo guuleysatay uma jeedo waan rajaynayaa insha Allah tacaala qofka ugu dambeeya inay gabar noqoto ma huba daawadayaal yaalay dhiin lacala hadday gabar noqoto cali yaa sheegay adduun waa haween intaa laysuma hayee nin doonaaba ha hadlee hooyadu waa lama huraan gabdhuhu iyagaana dhalay waa walaalaheen waa ooriyaasheen maasha Allah bulshaduna lafdhabar ay u yihiin udub dhaxaad waan soo dhaweynaynaa insha Allah tacaala si aan wiilasha u aragnay gabdhaha dhalinyarada inaan aragno waa rajaynaynaa duqowda iyo ma aragtay bulshada qaybaheeda kala gedisanna inta garmadowga iyana inaan aragno waa rajaynaynaa ay qayb ka noqdaan macaamiisha ku xiran barteena Facebook ee Somtel Soomaaliya waayahay daawadiil ayaan war idinku daalin hadal la qabay xiiso ma leh aan gudagalo bin numberka aan yeedhiyo waa 60 eber 685 59 waa 66 mar labaad aan ku celiyo waa 60 eber 685 waayahay 59 waa 66 waa markii ugu dambeeyay waayahay daawade bal aad ila soco bal u fiirso waayahay waa 60 eber 685 waa 59 66 يا سلام يا عوا يا أيامه يا نصيب له وكشبتي أنا عوا لعوينا وأنا رانا وما سنتهاي أديك يا وجودن بيا ختامه مسك أن كوجسوا حرن دونا إن شاء الله وهبين ما تاريخية لما نبشر الصوماليات مال ولي بقى الدنيا ذيك الجوجان هذه هان هاي كوا كودا كان ما عرفت قارضها الدنيا كوا كودا كان قبل هذا دلكا kuwa ku dhaqan magaalada caasimadda ee Muqdisho kuwa inagala socda barta Facebooka kuwa telefoonada soo buux dhaafinaya kuwa xaafadaha jooga guud ahaan waa wada bogaadinayna insha Allah inta goobaha loo dalxiis taga joogta inta ma aragtay barnaamijkeena siyaabo kala duwan iyo goobo kala gedisanba joogo ee la socota waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin waa inagoo had iyo jeer idin heelan iyo idinkoo inoo hamuun qaba waayahay maadaama qaybta controlka iga codsatay inaan si aayar oo tartiib aan u sheego iyo dadweynaha fara badan ee inoo soo qoray inaan si tartiib u sheegno waxaan filayaa si tartiib inaan u sheegay waxaan rajaynayaa insha Allah macaamilka ugu horeeya ee ku shubtay inuu ma aragto uguna dambeeya waa macaamilka ugu horeeya uguna dambeeya ee ku shubtay kaadhka hadalka aan yeerinay inuu ma aragtay inala wadaago aan aragno aadaan u salaameynaa caawa hadiyado kala gedisan ayaa barnaamijka lagu bixiyey dadweynaha Soomaaliyeed aad iyo aadaan u bogaadinaynaa caawa dadweyne fara badan ayaa ku guuleystay mobilada shirkadda isgaarsiinta Somtel ay bixiso qaarkood ayaa ku guuleystay SIM 4G iyo data hadal ah qaarkood baa ku guuleystay $10 $15 $20 qaarkood ayaa ma aragtay
sigay oo maaragtay aad ugu dhawaaday inay ku guuleystaan WADSL-ka shirkadda isgaarsiinta Somtel. waa WADSL-ka waa mid ka mid ah barnaamijyada shirkadda ay bixiso sidaad shaashadaba ka aragtaan. waayahay sidoo kale dadweyne fara badan ayaa isku dayay inay ku guuleystaan insha allahu tacaala. kulley haddaan caawa lagu guuleysan jimcaha xigan lagu guuleysan doono aad ayaan kalsooni ugu qabaa. waayahay waxyaabo kale oo fara badan oo idiin qarinaynana way jiraan ay dadweynaha Soomaaliyeed ay ku guuleysan karaan. sidoo kale waxaad ku guuleysan kartaa lacago e-dahab ah. talow imisay noqonaysaa? waa e-dahab mobile money ayaad ku guuleysan kartaa. imisay noqon doontaa talow? ma $30 baad ku guuleysanaysaa? ma 50 baad ku guuleysan doontaa? ma $100 ayaad ku guuleysan doontaa? daawade ma garan karo. waa su'aal daaweyne madaxa daaliyeyse. habeen walba waxaan isku dayi doonaa insha Allah hadiyado cusub oo bulshada xiise geliya inaan usoo kordhino insha Allah. kulley caawa waa habeenkii ugu horeeyay insha Allah. habeenada kale xiga surprise fara badan ayaan idin soo wadnaa. waxyaabo aydan horay u arag dhagay far ayay noqon doontaa. dad fara badan baa isweydiin doona waa maxay. insha Allah kama hor dhici doono. farda laysoo hayana laysuma faansho. waan ka wardhowraynaa insha Allah waxyaabaha inoo qarinaayo insha Allah habeenka ka dambeeya aan kusoo bandhigi doono. weli waxaan ka wardhowraynaa daawadihii guuleystay ee ku shubtay kaadhkii u dambeeyay aan yeerina waa bin kaadhkii nasiibkiisa tijaabiyey. talow caawa isna muxuu ku guuleystay? waayahay waa su'aal daaweyne oo madaxa daaliyeysa. wuxuu ku guuleystay waan arki doonaa. guuleystahana waan idinla wadaagi doonaa insha Allah. fariinta guuleysiga ayuu soo diri doonaa. waxaana soo saari doonaa shaashadda waad arki doontaan insha Allah tacaala. daawadayaal barnaamijkan waa barnaamij hufan sidaan horeba idinkugu soo bandhignay dadweynaha Soomaaliyeed. waxaan aad ula wadaagaynay serialka aad aragtaan. waa serialka kaadhka qof waliba wuu arki karaa serialka. sidoo kale kaadharka aad aragtaan ma xoqno. waa kaarar weli aan la xoqin. kaamirada horteeda ayaan ku xoqeynay si qof walba uu u arko wax horey loo diyaariyay inaysan ahayn. ugu dambeyntiina waliba si degdeg ayaan ku yeerinay daqiiqadihii ugu horeysay. laakiin maadaama dadweynaha Soomaaliyeed ay naga soo codsadeen inaan si tartiib aan u sheegno si tartiib ayaan u sheegaynay si qof walba ugu guuleysto. qof walba isku day ugu guuleysto. anaga muhiimadeenu ma aha in dadku aysan ku guuleysan hadiyadaha aan bixinayno. hadiyadaha wax loo bixinayo ee barnaamijka loo diyaariyay waa in qof waliba guuleysto. xaqiiqdii qofkii ku guuleystay ee recharging sameeyay iyo kan aan sameyninba way guuleysteen. caawa way arkeen qof walba. qofkaan caawa guuleysanna jimcayaasha xiga ay nagu soo socda ayuu guuleysan doonaa. barnaamijkana waa barnaamij toddobaadla ah oo si toos ah aad ula socon doontaan daawadayaal dhageystayaal. bulshada Soomaaliyeed macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran barteena Facebook ee Somtel Soomaaliya idil ahaantiinba aad ayaan idin soo dhaweynaynaa. weli waxaynu ku guda jirnaa qaybihii dambe ee barnaamijkeenii nasiinada jimcaha iyo nasiibka dadweynaha ee shirkadda isgaarsiinta Somtel. insha Allah wixii talo iyo tusaale iyo fikir ahna barteena Facebook ay noogu soo dira. Facebook messengerkeena qaybta commentiyada insha Allah tacaala. idil ahaantoodna waan akhrin doonaa insha Allah tacaala. waan ka bogan doonaa. waa shirkadda isgaarsiinta Somtel iyo bahda barnaamijka nasiinada jimcaha iyo nasiibka dadweynaha ee shirkadda isgaarsiinta Somtel oo had iyo jeer u taagan raaligelintiina qancintiina iyo waqti walba oo wanaagsan aad jeceshiin inay idinla qaataan. xilliga nasiinada aad ku jirtaan, xilliga aad ciideysaan, xilliyada waqtiyada gaarka ay barakeysan. guud ahaan waxaan u taaganahay daawadayaal inaan idin qancino insha Allah tacaala. waan dadaali doonaa. dadaal gaari doontide dadaal gaari doontide waan dadaalaynaa insha Allah tacaala. sky is no limit. dunida wax walbo waad isku daydo waad gaari kartaa. waan isku day iyo inaad u adkaysato hawsha aad hayso si aad u xaqiijiso higsigaaga nolosha. insha Allah higsigeena noloshana waa had iyo jeer inaan idin qancino insha Allah tacaala.
qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijkeena ayaan ku guda jirnaa, daawadihii ugu dambeeyay ayaan ka warsugaynay insha allahu tacaala. waxaan siin doonaa waqti kooban, amin kooban ayaan siin doonaa insha allah. amin kooban dabadeed haddii uusan inoo soo dirin fariinta guuleysigana insha allahu tacaala innaga ayaan dib ula xiriiri doono oo qaybta systemka ayaan haynaa insha allahu tacaala, bulshadana la wadaagi doono, waa idiin soo bandhigi doonaa guuleystayaasha barnaamijka nasiinada jimcaha iyo nasiibka dadweynaha ee shirkadda isgaarsiinta Somtel. weli waxaan ka wardhowraynaa guuleystihii ku shubtay prepaid cardkii aan yeerinay insha allahu tacaala inuu inoo soo diro screenshotka. waxaan rabnaa isaga inuu nala falgalo, maaragtay inuu guuleystay bulshada Soomaaliyeed la wadaago, ay caddayn inooga filnaato macaamilka, maaragtay inuu noo soo diro fariinta guuleysiga ama ku shubashada kaarka hadalka aan yeerinay insha allah. hadduu inoo soo dirina innaga ayaa diri doona insha allah. qaybihii dambe ee barnaamijkeena ayaan ku guda jirnaa. daawade adiga un baan kaa wardhowraynaa si aan usoo afjarano barnaamijkeena. adiga un baa lagaa wardhowrayaa, fadlan gacanta fududee aayar un screenshotka ka qaad, isla mar ahaantaana daawada inala wadaag si aan inana bulshada Soomaaliyeed ugu dirno oo aan la wadaagno. kadibna insha allah barnaamijkeennii nasiinada jimcaha iyo nasiibka dadweynaha ee shirkadda isgaarsiinta Somtel inta aan kusoo afjarno habeenimadan jimcaha ah ee dadweynaha Soomaaliyeed oo shaqooyinka laga nasanayo, qof walbana xaafadihii uu joogo oo maaragtay xilli nasiina ay u tahay, dhalooyinkii ay daawanayaan, idaacadihii warbaahintii ay la socdaan, internetkii ay ku jiraan, eheladoodii iyo xigaaladoodii ay salaamayaan, in badan oo bulshadii ka mid ahna ay maaragtay daalacanayaan, ay la socdaan, qof walba nasiibkiisa tijaabinayo barnaamijkeenii nasiinada jimcaha iyo nasiibka dadweynaha ee shirkadda isgaarsiinta Somtel. waayahay guntii iyo gabagabadii barnaamijka ayaan isla joognaa insha allahu tacaala. daqiiqadii ugu dambeysay ayaan siinaynaa daawadaha, isaga un baan ka wardhowraynaa insha allahu tacaala. weli qaybta waayahay qofka ugu dambeeya, waayahay weli waqtigaan siinaynaa insha allah. sidaan hore uga dhawaajiyo kaadhka ugu dambeeya nooguma jirin jadwalka iyo waqtiga, laakiin waxaa ugu talagalnay dadweynaha aadka inoo soo wacaya ee soo buuxdhaafiyey bartayna Facebooka ee Somtel Soomaaliya iyo telefoonka gaarka ee barnaamijka ayaan dartood u sameynay si aan dadweynaha Soomaaliyeed ugala qayb qaadano barnaamijka nasiinada jimcaha. aad iyo aad u mahadsan yihiin insha allahu tacaala. waa inagoo had iyo jeer u taagan raaligelinta iyo qancinta macaamiisheena iyo bulshada Soomaaliyeed oo had iyo jeer la falgasha barnaamijyada iyo adeegyada dhaxalgalka ee shirkadda isgaarsiinta Somtel bulshada usoo bandhigayso. barnaamijyadii hore loo soo bandhigay iyo kuwa hadda taagan intaba dadweynaha Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa yacni dadweynaha aanu guuleysan fadlan jaanis ha siiyaan qofka guuleystay. qaybta controlka ayaan ka wardhowrayaa insha allahu tacaala. okay okay weli dadweynaha Soomaaliyeed ayaan ka wardhowrayaa insha allahu tacaala. waayahay daawadaha waxaan filayaa inaan waqtigii loogu talagalay in ka dheeriya aan siinay. insha allahu tacaala waan idinla wadaagi doonaa insha allah. walaalaha qaybta systemka ayaan insha allahu tacaala rajeynaynaa inay nala wadaagaan insha allah. waana diyaar sidaan arkaba, waana idiin soo bandhigi doonaa guuleystayaasha caawa ee 7 ah insha allahu tacaala. waxaan isla soo gaarnay waa guntii iyo gabagabadii barnaamijkeenii nasiinada jimcaha iyo nasiibka dadweynaha caawa oo habeenkii koowaad ee barnaamijka. waa 4 bisha Shawaal, sanadu waa 1400 hijriyada islaamka, waa 1440 hijriyada islaamka. sidoo kale waa 7 bisha lixaad, sanadu waa 2019. waa guntii iyo gabagabadii barnaamijkeenii nasiinada jimcaha iyo nasiibka dadweynaha ee shirkadda isgaarsiinta Somtel. insha allahu tacaala daawadihii inoo harsanaa waxaan filayaa inaan waqtigii loogu talagalay aan siinay.
welina aan isaga ka wardhowreyno insha allahu tacaala. waa yahay hadduuna soo galin insha allah waxaan rajeynayaa inaan halkaa kusoo aftaro barnaamijka. waan idinkaga mahad celinaynaa insha allah. kommentiyada ayaan aad ula socday dadweynaha, waan uga mahad celinaynaa sida had iyo jeer inoogu soo diraan fariimaha dhiirigelinta leh ee barnaamijka maaragtay dhaxalgal gaara u sameynaya, isla mar ahaantaana inagu tartarsiinaya insha allahu tacaala inaan hawsha halkeedii kasii wadno. waxaan halkaa kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeenii nasiinada jimcaha iyo nasiibka dadweynaha ee shirkadda isgaarsiinta Somtel. waa guntii gabagabadii barnaamijka, waa daadiyaha barnaamijka cali cusmaan taaha oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. daawadayaal jimco wanaagsan insha allah. waa inaga intaa barnaamijkeenii, halkaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa insha allah. way inta xigta nabadgelyo insha allah. barnaamijka xigay intaan ku kulmayno.